أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال ولكن آدم نور حسن waxaad kusoo dhawaateen kanaalkani muuqaal production insha Allah muuqaalkan maanta diyaaleen waxaan rabaa inaan idin la wadaago course aan hore u diyaariyay oo ku saabsan programka Brain Pro ee loo isticmaalo muuqaal sameynta marka casharadu waa casharo taxane sectionkii ugu horeeyay ayaan rabaa inaan idin la wadaago ama sectionka koowaad marka sectionka koowaad wuxuu ka kooban yahay almost 10 muuqaal ayuu ka kooban yahay marka sectionkan koowaad ayaan la wadaagi doonaa insha Allah muuqaalka ugu horeeyo sectionka koowaad uu ka bilaabanayo waxa waaye qaabka loola soo degayo Brain Pro-ga marka muuqaalka ugu horeeyo oo kale waan ka soo jaray marka xalqada ugu horeyso oo kale marka YouTube kuma soo gudbin karo qaabka programka loo crack gareynayo marka muuqaalka wuxuu ka bilaabanayaa ama casharada taxanada waxay ka bilaabanayaan muuqaalka labaad ay ka bilaabanayaan marka dhamaantiin waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iideysan doontiin insha Allah waxaan ka codsanayaa marka kanaalka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar videogana like saar videogana like aad ay muhiim noogu tahay saaxiibada jecel inay bartaan programkan Brain Pro-gan u share garay marka ku soo dhawaada casharada taxanada ah insha Allah casharkeeni saddexaad ee barashada video editing-ka dhanka Adobe Premiere Pro CC 2020 waxaynu ku baran doonaa application-ka Brain Pro-ga qaabka loogu fasaxayo awoodda GPU-ga computer-kaaga GPU-ga waxaa laga soo gaabiyay Graphic Process Unit marka haddii computer-kaaga awood dheeraad ah uu leeyahay GPU uu leeyahay qaabkee marka Brain Pro-ga markaad isticmaalayso sidoo kale aad ugu fasaxi kartaa awoodda GPU-ga ugu horeyn marka waxaad ku ogaan kartaa computer-kaaga graphic-ga ku jira first step-ka aad ku ogaan kartid waxay tahay shirkadaha badnaa waxay ku soo dhejiyaan qaybta sare ee computer-ka physical-ka ama meelaha oo keyboard-ka agaarkiisa ay ku soo dhejiyaan haddii uu Intel kaligiis uu kugu jiro oo kale meesha aad ka ogaan kartaa sidoo kale haddii oo Nvidia oo kale kugu jiro haddii AMD kugu jiro haddii warqadaha meesha ku dhagan oo kale haddii aad ka weysid oo kale GPU kugu jiro computer-kaaga waxaad samayn kartaa meel banaan sidaan oo kale desktop-ka ayaad right click leedahay meeshan ayaad ka arki doontaa insha Allah GPU ku jiro computer-kaaga hadda computer-kan waxa ku jiro Intel kaligiis ku jiro kuma jiro AMD-ga Nvidia waxyaabo la mid ah kuma jiro marka anagoo haysano Intel-kan kaligiis qaabkee ayaan ugu fasaxi karnaa awoodda GPU-ga Brain Pro-ga marka way fududahay waxaad sameynaysaa marka automatical meel banaan ayaad right click leedahay waxaad ka dooranaysaa marka display setting ayaad ka dooranaysaa display setting ayaad ka dooranaysaa display setting markaad ka dooratid qaybta hoose aad scroll u soo sameynaysaa sidoo kale meeshan waxaad ku haysataa marka graphic setting ayaad ku haysataa marka waxaan u baahanahay awoodda Brain Pro-ga inaynu fasaxno GPU-ga marka waxaanu ku dhufanaynaa qaybtan ay ku qoran tahay graphic setting ayaan ku dhufanaynaa sidoo kale wuxuu ku soo saari doonaa meeshan programmada aad hore ugu soo fasaxday GPU-ga haddii aadan waxba ugu soo fasaxin GPU-ga sidan kuguma soo saari doono marka si aan Brain Pro-ga aynu ugu soo fasaxno hadda Brain Pro meeshan ma saarno waxaanu sameynaynaa qaybtan waxaanu ku dhufanaynaa marka browse aynu ku dhufanaynaa si aan ugu soo doorno application-ka qaybta gudaha ee system-ka qaybtan waxaan ka dooranay marka browse ayaan ka dooranayaa markaad browse aad ku dhufatid sidan ay kuu soo saari doonaa qaybtan waxaad ka dooranaysaa marka local disk C-geeda ayaad ka dooranaysaa kadib sidoo kale waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay program files-ka ayaad ku dhufanaysaa sidoo kale qaybtan sare waxaad ka dooranaysaa Adobe ayaad ka dooranaysaa wuxuu ka mid yahay Brain Pro-ga waxyaabaha productiga Adobe ayuu ka mid yahay qaybtan waxaad ku dhufanaysaa marka Adobe folder-kan ayaad ku dhufanaysaa wuxuu ku soo saari doonaa mar kale programmada aad ka isticmaashid shirkadan Adobe ayuu ku soo saari doonaa marka programkan u baahanahay hadda waa Brain Pro waxaynu ku dhufanaynaa marka Adobe Brain Pro-ga version-ka ugu jiro computer-kaada ayaad ka dooranaysaa kadib sidoo kale folder-ka gudaha markaad u soo gashid qaybta hoose scroll u soo samee marka meeshan waxaad ka doorataa Adobe Brain Pro-ga .exe-ga midka ugu dambeeyay ayaad ku dhufanaysaa waxyaabahan kala ha dooran midkaan ay ku qoran tahay Adobe Brain Pro .exe-ga ayaad ku dhufanaysaa kadib markaad ku dhufatid sidan ay ugu soo darsami doonaa qaybta GPU-ga sidoo kale waxaad sameynaysaa marka haddii la hadlo waa system default-ga ayuu saaran yahay qaybtan waxaad ka dooranaysaa marka options-ka ayaad ka dooranaysaa midka aad ku soo dartay hadda waxaynu ku soo darnay marka Brain Pro-ga waxaan ku dhufanayaa marka qaybtan options-ka ayaan ku dhufanayaa sidoo kale wuxuu ku tusinayaa marka higher performance ku jiro computer-kaaga GPU-giisa ayuu ku tusinayaa hadda kan Intel waa HD waa 4000 waaye
marka systemkaada waxaa laga yaabaa aad isticmaalaysid inuu midkan uu ka sareeyo waxaad ku dhufanaysaa marka meeshan ay ku qoran tahay high performance ayaad ku dhufanaysaa sidoo kale safe aad leedahay marka hadda Adobe Premiere Pro waxaad sidan aad ugu ogolaatay inuu markuu shaqeynayo uu isticmaalo GPU-ga computerkaaga waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad wada fahanteen qaabka loogu apply gareynayo GPU-ga computerkaaga Adobe Premiere Pro iyo sidoo kale softwaread kale aad u baahan tahay insha Allah casharkeena afraad ee barashada video editing-ka dhanka Adobe Premiere Pro CC 2020 waxaynu ku baran doonaa qaabka loo abuurayo mashruuc cusub marka aynu gudgalno waxaad soo furanaysaa programka Premiere Pro ayaad soo furanaysaa Premiere Pro markaad soo furatid uu loading uu sameeyo uu ku soo furmo automatically hore aan u soo furay marka waqti maraba inuu iga qaato programka wajahadiisa ugu horeeyo wuxuu ka kooban yahay ugu muhiimsan inaad fahantid waa labo button waaye buttonka ugu horeeyo oo meeshan ay ku qoran tahay new project iyo buttonka labaad ay ku qoran tahay open project hadaba buttonkan maxay ka dhigan tahay ay ku qoran tahay new project waxa waa mashruuca hadduu cusub yahay hadda meeshaad ka geli lahayd albaabka Premiere Pro waxaan rajaynayaa inaad si fiican aad wada fahanteen meesha mashruuc cusub ee laga sameeyaa sidoo kale mashruuc hore computerkaaga haddii uu kugu jiray aad ugu tagtay howlo kale iyo dib aad rabtid inaad ugu soo laabatid ayaad waxaad leedahay open project kuwa hore haddii aad ku shaqeynaysay ay kugu jiraan computerka gudihiisa haddana Premiere Pro wuxuu ku ogolaanay inaad mar kale aad soo furtid projectidaas ama mashruucaas sidoo kale wajahada ugu horeysa ee Premiere Pro wuxuu siinayaa meel ay ku qoran tahay Open Premiere Rush Project ugu horreyn waa inaynu fahanaa muxuu yahay Premiere Rush Premiere Rush waa software wax lagu edit gareeyo ay leedahay shirkadda ay soo saarto sida Premiere Pro oo kale Adobe iskale marka wuxuu ku shaqeeyaa marka Premiere Rush telefonaadka ayuu ku shaqeeyaa iOS-ka iyo sidoo kale Android-ka ayuu ku shaqeeyaa haddii project aad ku shaqeynaysid mobile-kaaga aad qabi ugu tagtay waxaad sidoo kale aad kusoo furan kartaa computerkaaga Open Premiere Rush project aad leedahay kadib waa soo furanaysaa sidoo kale meeshan wuxuu kugu siinayaa wajahada ugu horeyso recently macnaha qaybtan inta haddii aad ku shaqeynaysay waxyaabo project oo ugu dambeeyay maalmihii ama bilooyinkii ugu dambeeyay uu meeshan ku soo tixi doonaa kadib sidoo kale inta waad ka gudgali doontaa sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa qayb surgeon aynu ku haysanaa surgeon-kan maxay tahay surgeon-kan waxa waaye projectigaada haddii gudaha uu kugu jiro qaybtan hadda inta waxaynu kusoo sheegnay waxyaabaha recently oo kale haddii aad recently kugu dambeeyay inta aad ka weysid oo kale waxaad samayn kartaa qaybtan surgeon-ka kadib projectigaaga magaciisa ama mashruucaada ayaad inta ku qoraysaa gudaha computerkaaga haddii uu kugu jiro wuu kusoo saari doonaa marka anaga hadda Premiere Pro waynu ku cusubnahay marka waxaan ku dhufanayaa qaybtan ay ku qoran tahay new project ayaan ku dhufanayaa marka sidoo kale new project markaan ku dhuftay waxa ay soo furmatay daaqada ay ku qoran tahay new project qaybtan ugu horeysa ay ku qoran tahay untitled-ka projectigaaga magaciisa aad ku qoraysaa aniga waxaan leeyahay casharka koowaad ayaan leeyahay sidoo kale location-ka waxa waaye qaybtan location-ka ay ku qoran tahay projectigaaga computerka meesha laga dhigayo qayb gooni haddii aad u baahan tahay waxaad ku dhufanaysaa browse aad leedahay si aadan ugu wareerin sidoo kale anaad waxaan u baahanahay qaybtan data ay ku qoran tahay sidoo kale my project inuu ii dhiga aan u baahanahay waxaan ku dhufanayaa marka meeshan ay ku qoran tahay select folder ayaan ku dhufanayaa marka sidaan ayaad ugu bedeli kartaa location-kaaga meel gooni haddii aad u baahan tahay inaad dhigtid sidoo kale waad dhigan kartaa desktop-ka meel gooni waad dhigan kartaa marka hadda folder-kan ay ku qoran tahay my project aan soo doortay ayaa la igu keedin doonaa mashruucayga marka sidoo kale markaynu fiirino qaybtan ay ku qoran tahay generalka waxaa muhiimsan marka inaanu fahanno rendering iyo sidoo kale playback renderka muxuu yahay playback muxuu yahay inkastoo aynu fahmi doono haddana xoogaa yar aan sharaxo renderka waxa waaye muuqaalkaaga projectigaaga markaad dhamaysid markaad rabtid inaad dibadda usoo saaratid awooddu isticmaali doono Premiere Pro ayaa lagu weydiin doonaa meeshan ay ku qoran tahay renderka marka computerka aan isticmaalay hore aan usoo sheegay computer iska laciif waaye software only meeshan haddii ay ku saaran tahay micro playback engine software only haddii ay ku saaran tahay computerkaaga GPU ma lahan automatical marka meeshan haddii ay ku furmayso computerkaaga uu GPU leeyahay GPU-ga dooro sidoo kale playback muxuu yahay playback waxa waaye mashruucaada markaad ku guda jirtid oo kale aad qaybta gudaha aad u gashid meeshaad ka daawan lahayd ama waxyaabaha timeline-ka ku saaran shaashada meel laga daawado ayuu leeyahay meeshaad ka daawanaysid awooddu ku daawanayo waay marka playback-na waa intaas marka meeshan si fiican iskaga fiiriya renderka meesha saaran haddii software only ay ku saaran tahay computerkaaga awood saas ma lahan marka qaybtan iska bedel haddii computerkaaga GPU-ga graphic processing unit-ka uu leeyahay sida Nvidia
AMD hadduu leeyahay saaro, waan kugula talin lahaa recommendation ahaan inaad saaratid. Marka sidoo kale meeshaan markaad fiirsin ay ku qoran tahay video audio capture-ka, videoga ha saarnaado time code-ka, audiona ha saarnaado audio sample-ka, capture-kana ha saaro DV. marka waxaan rajaynayaa inaad si fiican aad u soo wada fahanteen. qaybtan waxaa waaye mashruucaada magaciisu waaye, meeshaad computerka ka dhigi lahayd waa location-ka. generalka marka taabisi kale ayaa hoos imaanaya, taabisidan wax muhiim saas ah nooma lahan. scratch diskiga iyo sidoo kale labadan wax muhiim saas ah nooma lahan, marka sidaan ha ku ahaadaano. marka intaan sidaan ayaad ku samaynaysaa. sidoo kale waxaad ku dhufanaysaa marka projectigaaga meeshaad dhigan lahayd iyo magac markaad usoo bixisid, waxaad ku dhufanaysaa marka qaybtan ay ku qoran tahay okay aad ku dhufanaysaa si aynu gudaha ugu galno Premiere-ga. okay markaad ku dhufatid marka gudahan Premiere-ga ayaa lagu soo gudbin doonaa, waa meeshaad ku shaqayn lahayd waaye. taabkan ugu horeeya oo default-iga saaran haddii aad ku cusub tahay editing-kan ayaa soo furmi doono. insha Allah waxyaabahan meeshan saaran waxay yihiin aynu baran doonaa casharada soo socda hadduu Alla idmo. casharkan intaan aynu kusoo gabagabeyn doonaa, waxaynu baranay qaabka project cusub loo samaysanayo. insha Allah casharkeena shanaad ee barashada video editing-ka dhanka Adobe Premiere Pro CC 2020 waxaynu ku baran doonaa interface-ka uu leeyahay programka. marka interface waxaan la jeedaa wajahadan hore ee kusoo furmi doonta default-iga qaybtan editing-ka. waxyaabo kale ay ku saaran yihiin qaybtan taabiska, iska qaad oo qaybta editing-ka saaro oo default-iga. haddii color ama waxyaabahan learning-ka oo kale hadduu ku saaran yahay, iska qaad waxaa saarataa marka qaybtan editing-ka saaro. waa qaybta wax lagu edit gareeyo ee default-iga ay usoo diyaariyeen shirkadda Adobe, qaas ahaan programka Adobe Premiere Pro-ga. marka daaqadahan aynu baran doonaa waxyaabaha ay kala yihiin aynu baran doonaa. guud ahaan programka waxaa ugu caansan 4 daaqadood, ama aan dhaho waxaa ugu waaweyn 4 daaqadood ayaa ugu waaweyn. sidoo kale meeshaan waxaynu ku haysanaa daaqado kale aynu ku haysanaa. marka guud ahaan daaqadahan sida default-iga kuusoo furmi doono waa 6 daaqadood, waa marka kuwan yaryarka markii lagu daro. marka insha Allah maanta aynu si fiican u baran doonaa daaqadahan waxyaabaha ay kala yihiin iyo sida waxyaabaha loo isticmaalo. marka qaybtan aynu ka bilaawno. daaqadan aad u jeediin oo projectigii hore aynu soo sameynaynay waxaa ku qoran casharka koowaad ee ku qoran qaabka project loo sameynayo waynu soo baranay. marka qaybtan waxaa lagu magacaabaa project panel ayaa lagu magacaabaa. waa qaybta ilbaabka Premiere Pro-ga meesha aad wax kasoo gelin lahayd waaye, sida muuqaalada waxyaabaha media la isku dhaho oo kale, sida videoska oo kale, codadka oo kale, sawiraanta oo kale, waxyaabahaas dhan meesha laga soo geliyo waa import-igii meesha laga sameynayo waxyaabaha media oo idil waxaa lagu magacaabaa marka project panel ayaa lagu magacaabaa. sidoo kale qaybtan kale markaad imaatiin waxaa lagu magacaabaa timeline ayaa lagu magacaabaa. timeline-ka waxaa waaye waa meesha muuqaalka lagu bedelo waaye, ama aan dhaho waa qaybta lagu kariyo muuqaalka. karintana sidii cuntada maahan. qaybta video editing-ka wuxuu leeyahay program walba timeline ayuu leeyahay. timeline-kaas marka waa meesha lagu jarjaro muuqaalka, waa meesha effect-iga lagu saaro muuqaalka, waa meesha qoraalka lagu saaro muuqaalka. marka waynu baran doonaa insha Allah, gudaha aynu gali doonaa. marka timeline ayaa lagu magacaabaa hadda qaybtan. sidoo kale meeshaan markaad fiirisin waxaa lagu magacaabaa program monitor ayaa lagu magacaabaa, ama sidoo kale waxaad dhihi kartaa preview area aad dhihi kartaa. waa meeshaad ka daawan lahayd muuqaalka kuu saaran qaybtan timeline-ka. waynu arki doonaa insha Allah programkan qaabka muuqaalka ugu soo muuqan doono, balse ogow in lagu magacaabo program monitor waa dhihi kartaa, ama sidoo kale preview area dhihi kartaa. waa meesha muuqaalka aad ka daawan lahayd muuqaalka aad sameynaysid waaye. sidoo kale qaybtan kale waxaa lagu magacaabaa source panel ayaa lagu magacaabaa. source panel-kan shaqooyin badan ayay qabataa iyadana. inta muuqaalkaada aadan keenin timeline-kan aadan ku jarjarin muuqaalkaaga, sidoo kale qaybtan waad kusoo jarjari kartaa source-gan muuqaalkaaga. marka qaybtan waxay muhiim u tahay tusaale ahaan muuqaalkaaga hadduu dheer yahay oo kale, muuqaalkaaga inaad ku jarjari kartid intaadan keenin timeline-kan. muuqaalkaaga inaad codka aad keligiis aad soo qaadan kartid aad keeni kartid timeline-ka. sidoo kale muuqaalka keligiis inaad sameyn kartid qayb ka mid ah muuqaalka inaad soo goosan kartid, waxyaabo kale inaad iska dayin kartid. marka qaybtan source-gana waxyaabo badan ayaa lagu sameeyaa. insha Allah ayadana waynu baran doonaa. sidoo kale meeshaan waxaynu ku haysanaa tool ayaynu ku haysanaa tooliska. tooliskan waxyaabaha oo idil aad rabtid inaad u isticmaashid muuqaalkaaga ayaad ka helaysaa. sida haddii aad u baahan tahay inaad jartid oo kale waad ka helaysaa. sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad muuqaalkaaga text qoraal haddii aad u baahan tahay waad ka helaysaa. waxyaabo badan ayaad ka helaysaa. marka tooliskan
wuxuu si toos ah ula shaqeynayaa qaybtan timeline ayuu la shaqeynayaa marka waynu baran doonaa laakiin ogow hadda in lagu magacaabo toolska sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa audiometer ayaynu ku haysanaa audiometerkan wuxuu ku cadeynayaa ama ku sheegayaa muuqaalkaaga codkiisa heerka uu gaarsiisan yahay haddii -6 uu yahay -12 hadduu yahay marka levelka uu marayo codkaaga hadduu dheer yahay hadduu gaaban yahay aad kala soconaysaa qaybtan audiometerka sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa oo ay ku qoran tahay learning assembly editing color effect audio graphic library marka meeshan tabis waaye tabiskan Premiere Pro wuxuu ku siinayaa haddii qof aad tahay muuqaalo sameeyo waxaa lagu soo si default ah lagu soo diyaariyay qaybtan editka ee lagu soo diyaariyay haddii colorist aad tahay muuqaalo aad color garay sidoo kale qaybtan panelkan aad isticmaali doontaa haddii waxyaabo effect oo kale haddii aad u baahan tahay qaybtan aad isticmaali kartaa haddii waxyaabaha audio lagu magacaabo codad iyo waxyaabo noocaas ay edit garaysana qaybtan aad isticmaali kartaa oo si default ah shirkadda ay soo diyaarisay sidoo kale qaybtan graphic-ga waxyaabaha motion-ka oo kale haddii aad u baahan tahayna intii ayaa lagu soo diyaariyay marka waxyaabahan sidaan ayaa loo isticmaalaa sidoo kale casharkeena soo socda ee lixaad waxaynu ku baran doonaa style gooniya qaabkan u samaysan lahayn tusaale ahaan hadda badna waxaan wax ku edit gareeyaa isticmaalaa stylekan hadda markaad fiirsin wuxuu wax badan uu ka duwan yahay midka hadda aynu soo baranay defaultga editingka marka waxaynu baran doonaa waxyaabahaada qaabka loo hagaajisto ama wajahadaada hore qaabka stylekaad rabtid inaad u isticmaashid waxaan rajaynayaa inaad intaas la wada fahmaysin dadku isku mid ma ahan qof waxyaabuu u baahan yahay qofna waxyaabaha uma baahno aad qofka isticmaalo marka qaabka loo kala hagaajinayo wajahadan hore aynu baran doonaa insha Allah cashar kale aynu ku baran doonaa hadduu alleydmo marka tabiskan sidaan ayaa loo isticmaalaa tab gooniyan waad samayn kartaa kan aad style 2021 ay ku qoran tahay waa mid aan isticmaalo aan sameeyay waaye sidoo kale qaybtan sare markaad fiirisanay lagu magacaabo menu barka waxaynu ku haysanaa file edit clip sequence marka programyada way ka wada siman yihiin Adobe oo kale inkastoo ay ku kala duwan yihiin tusaale ahaan hadda Photoshop oo kale kama helaysid waxyaabaha inta ku qoran oo kale wuu ka duwan yahay asigana maadaama waxyaabo kaaska loo isticmaalo photo editing kana loo isticmaalo waxyaabo muuqaalo qusay loo isticmaalo marka qaybahan sare oo idil waxyaabo gooni ay qabtaan insha Allah ayadana waynu baran doonaa muuqaalkeena soo socdo casharkeena lixaad waxaynu ku baran doonaa hadduu alleydmo qaabka style gooni loo samaysan doono oo qaybtan tabiska aynu ku baran doonaa insha Allah casharkeena shanaad intaan ayaan kusoo gabagabayn doonaa casharada soo socda aynu si fiican ugu baran doonaa daaqad walba qaabka loo isticmaalayo muuqaal aynu ku dul istaagi doonaa hadduu alleydmo tusaale ahaan project panelkan oo kale muuqaal gooni aynu ka diyaarin doonaa lagu baranayo qaabka wax loo soo gelinayo qaabka organize loo sameynayo wax walba ku saabsan daaqad kasta cashar aynu ku baran doonaa waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad wada fahanteen muuqaalkeena maanta insha Allah casharkeena lixaad ee barashada video editingka dhanka Adobe Premiere Pro CC 2020 waxaynu ku baran doonaa insha Allah qaabka loo sameeyo wajahad cusub waxaan ula jeedaa marka interface-kan waa sida default-ga uu ku yimaado waxaad sameyn kartaa marka waad bedeli kartaa waxyaabo waad move gareyn kartaa marka tusaale ahaan oo kale hadda source-gan inta aynu ku haysano oo kale inta hadda waynu keeni karnaa waynu ku dari karnaa waad u jeedinayaan filay hadda source-gi iyo sidoo kale program monitor-kii hal meel aynu ka wada dhignay marka sidaan oo kale aad samayn kartaa sidoo kale kana aad soo move gareyn kartaa inta aad keeni kartaa midkaan aad inta geyn kartaa marka sidaa rabtid aad yeeli kartaa Premiere Pro wuxuu ku siinayaa marka freedom ayuu ku siinayaa ama xorriyad ayuu ku siinayaa interface-kaada meeshaad u baahantahay aad kala geysan kartaa qof walba style-ku u baahan yahay uu isticmaali karaa marka sidaan oo kale hadduu ka noqdo oo kale aad ku ciyaartid oo kale Premiere Pro-ga HD marka waan ku guuldareystay waxaad samayn kartaa marka interface-kan sidiis hore aad u soo celin kartaa waxaad imaanaysaa qaybtan window-ga aad imaanaysaa sidoo kale waxaad ka dooranaysaa workspace aad ka dooranaysaa iska fiiri marka inuu ku dooran yahay qaybta editing-ka sidoo kale editing-ka markuu ku dooran yahay waxaad ku dhufanaysaa reset to save layout aad ku dhufanaysaa waad u jeedinayaan filaya marka hadda sidaan ayuu sidii default-ga ayuu ku soo laabtay haddii aad wax qaladid sida hadda aad samaynaysaa window sidoo kale workspace iska fiiri marka qaybtaad u baahantahay inaad originalka aad ku soo celisid inay ku dooran tahay kadibna waxaad ku dhufanaysaa meeshay ku qoran tahay reset to save layout ama sidoo kale alt shift plus o aad taabanaysaa keyboardkaaga marka waxaynu marka qaybtan oo kale hadda waa qaybta aniga isticmaalo oo kale hadda style 2021 ay ku qoran tahay waa sida aan u isticmaalo waa marka sidaan waa sida uu ku yimaaday oo default-ga ah waxaan rajaynayaa marka farqi badan inuu u dhaxeeyo qaybtan timeline-ka oo kale meel barano oo waraaqo aan ku shaqeyn kara ayaan samaystay
marka sidee u samayn kartaa marka adigana laakiin ogsoonaad waxaynu ku shaqayn doonaa sidan defaultiga ah waa qaabka ugu fudud oo ardaygu ku fahmi karo qaabka BrainPro ay u soo diyaariyeen marka haddii aad u baahan tahay marka style gooni inaad samaysid sidoo kale waxaa samaynaysaa tusaalaha midkan oo kale aynu samaynaynaa haddii aad fahantid marka styleska qaabka loo samaynayo qof walba wuxuu isticmaalayo ayuu meel isu keeni karaa marka waxaa samayn kartaa daaqad walba si aad u move garaysid daaqada tusaalahan sourcigan ayaanu clickta adigoo haya left click waxaa samaynaysaa waad soo jiidaysaa kadibna daaqadaad u baahantahay aad ku duldeynaysaa waad ujeedinayaan filaa hadda sourciga iyo sidoo kale program monitorka hal daaqad ayaynu ka dhignay waanu isugu gudbi karnaa sidoo kale waxaa samayn kartaa drag and drop waad soo kala horumarin kartaa sidoo kale waxaa samayn kartaa marka daaqadaadan u baahnayn waad iska move garayn kartaa metadatigan oo kale hadda ma isticmaalo ani hadda badnaa marka midkaada isticmaalay oo kale waxaad ku dhufanaysaa marka saddexdan calaamadood meeshan saaran ayaad ku dhufanaysaa sidoo kale waxaad ka dooranaysaa close panel ayaad ka dooranaysaa sidaan ayuu ku xirmay sidoo kale audio mixerka iyo sidoo kale controlka effect controlka waynu u baahannahay sidoo kale waxaynu samaynaynaa marka qaybtan projectiga ayaynu inta kusoo daraynaa marka waad kala horumarsiin kartaa midna xasuusnoo marka projectiga oo kale geeskan ayaynu keenaynaa sidoo kale media browser oo kale uma baahnin close panel ayaan ku dhufanayaa sidoo kale library oo kale uma baahnin waxaan ku dhufanayaa marka close panel marka close aad samaynaysid saddexdan dhibcood meesha saaran ama saddexdan eelkood meesha saaran ayaad ku dhufanaysaa sidoo kale waxaad ka dooranaysaa marka close panel sidoo kale effectiga waynu u baahannahay effectiga daaqadaad u baahantahay aad ku daraysaa marka effect control waynu isticmaali doonaa markerska oo kale uma baahnin waan soo dooranayaa saddexdan eelkood kadib waxaan ku dhufanayaa close panel sidoo kale historyna uma baahnin close panel ayaan leeyahay marka hadda sidaan waxaynu ku samaysanay qaybtan timelineka oo kale space badan ayaanu siinay sidoo kale paneliska haddii aad u baahan tahay qaabkeed ugu soo dari kartaa marka waxaa samaynaysaa marka guud ahaan programka hadday wax kaa maqan yihiin waxaad ka raadin kartaa qaybtan windowga sidoo kale hadda waxaynu kusoo daraynaa meelay ku qoran tahay essential graphic oo kale waynu isticmaali doonaa kadib inta ayuu ku imaaday sida defaultiga haddii aad u baahan tahay waxaad samayn kartaa soo move garayn kartaa inta aad keeni kartaa balse essentialka inta ayuu ku wanaagsan yahay meeshiisa sidoo kale waxaynu kusoo daraynaa inuu isticmaali doonaa qaybta windowga software waxaynu kusoo daraynaa essential soundska waynu isticmaali doonaa kadibna essential soundska inta ayuu ku imaaday haddii aad u baahan tahay waxaad samayn kartaa soo move garayn kartaa inta aad keeni kartaa meeshaad u baahan tahay aad geyn kartaa marka hadda ani inta ayaan geynayaa marka waxyaabaad u baahan tahay oo idil hadday wax kaa maqan yihiin oo kale qaybtan windowga mar walba imow kadib meeshan ka raadi windowga imow meeshan ka raadi lumetric color oo kale waanu isticmaali doonaa lumetric scope oo kale waanu isticmaali doonaa marka lumetric color oo kale hadda markaan ku dhufto waad ujeedin inta ayuu imaaday marka daaqadahan sidoo kale waxaa samayn kartaa marka haddii ay kugu yar yihiin oo kale qaybaha meel walba meesha u dhaxayso oo kale spaceka oo kale markaad imaatid laba filaar ay kuu soo bixi doonto up and down ama right and leftiga ama bidix ama midig ama kor iyo hoos waxaa samayn kartaa marka adigoo leftiga haya ayaad sidaan u jiidi kartaa waad weynaysan kartaa waad yareyn kartaa waad ujeedinayaan filaya qaybaha junctionka meesha iskaga imaanayaan ayaad waxaad ku samayn kartaa waad ka kala dheerayn kartaa sidoo kale waxaad ka samayn kartaa marka waad isku soo aruurin kartaa marka daaqadahan sidaan ayaad u maamuli kartaa markaad fiirisin oo kale interfacekeena sidii hore xoogaa wuu ka yara duwan yahay oo waxyaabo badan ayaynu iska saarnay waxyaabo badan aynu kusoo darsanay waxyaabahaanu kusoo darnay waxaa ka mid ah effectiga oo kale sidoo kale essential graphic essential soundska lumetric colorkan waxyaabahan dhan hadda aynu kusoo darnay marka hadda markaad fiirisin oo kale kuwii hore wax badan ayuu ka bedelan yahay oo hadday sourciga inta ayuu yaalay sourciga hadda laba qaybood ayaynu ka kala dhignay programkii sourciga aynu iskaga kala gudbi karnaa oo halkan daaqadood aynu isticmaali karnaa sidoo kale projectiga meeshaynu kasoo gelinayn daaqadan aynu ka dhignay effectiga aynu kusoo darsan lahayn daaqadan ayaa inoo yaalaa effectiga meesha aynu ka maamuli lahayn codadka audio clip mixerka oo kale marka guud ahaan qaabkan ayaad u samayn kartaa interface cusub ama wajahad cusub aad ku isticmaali kartid BrainPro-ga style qof kasta uu ku gooniya haddii aad u baahan tahay qaabkan ayaad u samayn kartaa marka si aad u save garaysatid marka waxaa samayn kartaa stylekan haddii tusaalehaan sidaan oo kale hadda BrainPro aan kusoo xiro dib aan usoo furo stylekan iyo waxyaabahan inaanan weyninaan rabaa marka oo sidaan uu ii ahaado waxaa samaynaysaa marka si aad u save garaysatid windowga soo fur sidoo kale workspace ku dhufo qaybtan waxaad ka dooranaysaa marka save a new workspace ayaad ka dooranaysaa
kadib magac ayuu ku weydiin doonaa. Ani hadda waxaan ku qorayaa style 1 ayaan ku qorayaa ama style 1 ayaan ku qorayaa. kadib waxaan ku dhufanayaa okay ayaan ku dhufanayaa. qaybtan tabiska markaad fiirisin oo kale hadda style 1 ayaa kusoo darsamay. style 2021 oo kale waa midkaan ayaa isticmaalo oo kale. kanna waa midka hadda aynu sameynay. style 1 kan waa midka hadda aynu sameynay. aad u qurux badan yahay really. timeline kana wuu weyn yahay. qaybtan waxaynu ku haysanaa tooliska. sidoo kale projectiga inta ayuu noo yaalaa, sourciga sidoo kale way isku dhex jiraan, program monitorka iyo sidoo kale waxyaabaha effectska oo idil inta ay noo yaalaan, waxyaabaha muuqaaladan saameyn doona essential graphicsna inta ay noo yaalaan. marka aad u qurux badan yahay really midka hadda aynu sameynay oo kale. laakiin waad samaysan kartaa adiga sidaan oo kale waad u hagaajisan kartaa. laakiin coursiga oo kale waxaynu sameyn doonaa qaybtan editingka aynu isticmaali doonaa. marka sidiisa defaultiga ayaan kusoo celin doonaa qaybtan editingka oo kale. waxaan sameynayaa marka sidiisa hore originalka hore haddii aan u baahanayn aan kusoo celiyo, maadaama midkan aynu samaysanay midkan hadda waa isku style. marka kan waxaynu kusoo celinaynaa midkan editingka ay ku qoran tahay sidii uu originalka uu ahaa shirkadda ay kusoo saartay. waxaan ku dhufanayaa qaybtan windowga. sidoo kale waxaan ka dooranayaa workspace. sidoo kale editingka markuu saaran yahay waxaan ku dhufanayaa reset to save layout. marka waad ujeedinayaan filaya qaybtan editingka sidii originalka ayuu noogu soo laabtay. styleka aynu samaynayna hadda sidaan nooguma baabi'ino tab gooni aynu samaysanay ay ku qoran tahay style 1ka. marka qaabkan ayaad u samaysan kartaa wajahad cusub oo adiga aad isticmaali kartid oo dadku ay kala duwan yihiin. Premium Pro wuxuu ku siinayaa xorriyad ayuu ku siinayaa qaabka rabtid ayaad wajahad cusub u samaysan kartaa. insha Allah waxaynu ku shaqayn doonaa qaybtan defaultiga editingka aynu ku shaqayn doonaa. haddii aad u baahan tahay midka aynu samaynay oo kale iyo midka kale oo ka qurux badanba waad samaysan kartaa. kadibna midkaas ayaad isticmaali kartaa. kan xogaa waxbarasho ahaan midkaan ayaa fudud, sababtoo mid isku dhex qasi oo kale xogaa dadka kale inaysan haysanna laga yaabaa marka aysan samaynin. dadku isku mid maaha. marka midkaan defaultiga aynu isticmaali doonaa. qaabka loo sameeyana waa sidaan oo styleka hadda aynu sameynin oo ujeedin ayaan filayaa. midkaan defaultiga aynu isticmaali doonaa insha Allah. cashirkeeni toddobaad ee barashada video editingka dhanka Adobe Premiere Pro CC 2020 waxaynu ku baran doonaa waxyaabaha aad u baahan tahay oo ka kooban yahay projectigaaga qaabka import loo soo sameynayo. daaqadan interfaceka markaynu soo sharxayno waxaynu ku tilmaanay daaqadan aad ujeedin project panel. waa meesha aad kasoo gelin lahayd waxyaabaha projectiga uu ka kooban yahay ama mashruuca aad rabtid inaad samaysid. muuqaal, sidoo kale codod, music, sound effect, sawiraan, meeshaad kasoo gelin lahayd waa. marka qaababka ama weeyida wax loo soo geliyo Premiere Pro-ga aad ay u fara badan yihiin. ugu horeyn qaabka ugu horeeya wax loo soo geliyo Premiere Pro-ga waxaad imaanaysaa qaybtan file ayaad imaanaysaa. sidoo kale qaybtan waxaad ka dooranaysaa import ayaad ka dooranaysaa. import markaad ka dooratid waxaa kuusoo furmi doono gudaha computerkaaga ee kuusoo furmi doono. marka waxaad dooranaysaa meesha daatada aad rabtid inaad soo gelisid meesha ay ku yaalaan. ani hadda qaybtan my project ay yaalaan. sidoo kale haddii aad u baahan tahay muuqaal ama codad waxyaaba aad u baahan tahay aad import kusoo sameynaysaa. ani hadda muuqaalkan ayaan dooranaya. waa qaabka ugu horeeya aad usoo sameyn kartid import waxyaaba aad u baahan tahay projectiga uu ka kooban yahay. weygan waa weyga ugu horeeya aad import aad usoo sameyn kartid. sidoo kale weyga labaad aad import aad usoo sameyn kartid adigoo isticmaalaya shortcut-kan. hadda inta waxaa ku qoran Ctrl+I. anigoo inta taagan haddii aynu taabano Ctrl+I si direct waxaad sameyn kartaa import kale ayaad sameyn kartaa. waad ujeedinayaan filayaa. ama sidoo kale waxaad sameyn kartaa daaqada oo project panelka meel banaan sidaan oo kale ayaad waxaad sameynaysaa double click ayaad siinaysaa. double click markaasi sidoo kalena waxaad sameyn kartaa import ayaad sameynaysaa. meesha aad double click aad siinaysid waa meel banaan oo sidaan oo kale. ama sidoo kale way kale aad u sameyn kartid import meel banaan oo daaqadaada project panelka ka mid ah right click leedahay. waxaad ka dooranaysaa meeshaan import ayaad ka dooranaysaa. sidaan wax waad usoo gelin kartaa Premiere Pro-ga. muuqaal, codad, sawiraan, waxyaabaha aad rabtid sidaan waad usoo gelin kartaa. ama sidoo kale waxaad sameynaysaa weyga ani aan u badanahay oo aad aan u jeclahay mar walba aan import aan usoo sameeyo waxaan isticmaalaa. ugu horeyn waxaan soo diyaarsadaa waxyaabaha rabo inaan projectigayga aan ka mid ah sidaan oo kale aan usoo diyaariyaa. hadday codad ahaan lahayd, haddii music background ahaan lahayd, sidoo kale sawiraan iyo sound effect video. adigana aaday kugu wanaagsan tahay sidaan oo kale markaad usoo diyaarsatid. laakiin computerkaaga meelo badan hadday ka kala yaalaan waqti ay kaa qaadanaysa. waxaan kugu talinayaa marka inaad folderskan sidaan oo kale aad u samaysatid. marka sidaan oo tusaale ahaan kan oo kale ayaan rabaa muuqaaladan oo kale ayaan rabaa inaan Premiere Pro-ga aan import aan kusoo sameeyo.
kadib waxaan sameeyaa ayagoo sidaana ayaan drag and drop ayaan sameeyaa. Waa soo jiidaa muuqaalkan u baahanay inaan Premiere Pro aan soo geliyo, kadib project panelka markaan imaado waan ku sii daayaa. waa weyga ani aad ku jeclahay aan isticmaalo waay. marka weeyada wax loo soo gelinayo Premiere Pro-ga aad ay u fara badan tahay. waxaan rajeynayaa dhammaantood inaad wada fahanteen. weyga ugu horeysa qaybtan fileka adigoo jooga ayaad import sameynaysaa. sidoo kale weyga labaad waxaa sameyn kartaa adigoo isticmaalaya shortcut Ctrl+I ee taaban kartaa. weyga saddexaad waxaa waaye adigoo daaqadan jooga, xogaa aan soo weynayo, daaqadan project panelka jooga ayaad waxaa sameynaysaa double click ayaad meel banaan siinaysaa. meel banaan sidaan oo kale ayaad waxaad ku sameynaysaa double click siinaysaa. kadibna import ayaa kusoo furmi doono waxyaabaad u baahan tahay ee sidaan usoo gelinaysaa. ama sidoo kale waxaad sameyn kartaa meel banaan sidaan oo kale oo ka mid ah project panelka ayaad right click leedahay, waxaad sameynaysaa import ayaad ka sameyn kartaa sidaana. ama sidoo kale waxaad sameyn kartaa adigoo isticmaalaya folderska aad soo design gareysatay oo meel ku yaala ayaad waxyaabaad u baahan tahay drag and drop ayaad sameynaysaa project panelka. waxaan rajeynayaa dhammaantiin aad wada fahanteen qaabka wax loo soo gelinayo Premiere Pro-ga. weeyada aad ay u fara badan yihiin. sidoo kale marka haddii aad u baahan tahay folders iswata inaad soo geli, sidoo kale waxaad sameyn kartaa folderskaada ayaad hal mar highlight gareynaysaa. sidaan oo kale hal mar aad wada highlight gareynaysaa. hadda meeshan waxay ugu diyaarsan folder ay ku qoran tahay audio, music, background, picture, sound effect iyo video. folderskaad markaa sidaan oo kale aad u diyaarsatid drag and drop waa soo jiidaysa dhammaantooda. waa sida ugu sahlan. ugu horeyn waxaad soo sameynaysaa waxyaabaha projectka uu kaaga kooban yahay dhammaantooda inaad sameysid folder aad u samaysatid. kadib drag and drop ayaa soo sameynaysaa. Premiere Pro wuxuu akhrinayaa marka folderska dhammaantoodana wuu kusoo gelin doonaa. waad ujeedin ayaan filayaa folderkan ugu horeeya key music-ga, waad ujeedin sound effect, waad ujeedin sidoo kale midkan kalena video-na waad ujeedin. marka sidaan aad usoo gelin kartaa waxyaabaha folderska aad u baahan tahay Premiere Pro-ga. sidoo kale adigoo jooga meeshan ayaad sameysan kartaa folder haddii aad u baahan tahay. waxaad sameynaysaa meeshan waxaynu ku haysanaa icon folder ayaynu ku haysanaa. waxaa ku qoran new pin ayaa ku qoran. new pin ayaad click ku siinaysaa. magaca ayaad ula baxaysaa. kadib magaca markaad u bixisid waxaad sameynaysaa marka muuqaalada marka inta ku yaalaan oo kale drag and drop waa soo jiidaysaa oo ku duldeynaysaa. drag and drop ayaad sameynaysaa. marka muuqaalkan kalena hadda drag and drop aan ku sameeyo biinkii hadda aynu sameynay. marka magaca hadda biin kama bedelin. haddii aad u baahan tahay double click ayaad siin kartaa, waad ka bedeli kartaa. 2 items ayaa ku jirta, waad ujeedin ayaan filaya. haddii gudaha aan soo furno waxaa ku jiro waxyaabihii hadda aynu gelinay ayaa ku jiro, waad ujeedin ayaan filayaa. biinka gudihiisa hadda muuqaaladan ayaa ku jiro. marka adigoo isticmaalaya qaybtan gudaha project panelka sidaan ayaad u sameyn kartaa folder. sida ugu sahlan waxaa waaye drag and drop inaad samaysid. qaybta gudaha computerkaada inaad kusoo diyaarsatid drag and drop aad samaysid. sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa qaybta project ee ka mid ah iconskan aad ujeedin. xogaa banaanka aan kasoo bixiyo labada muuqaal si aan u wada fahanno. view-ga marka iconska aad ujeedin hadda meeshan waxaynu ku haysanaa list view iyo sidoo kale icon view aynu ku haysanaa. list view-ga haddii aan click ku siiyo sidaan ay wada noqonayaan, dhammaan list ay noqonayaan. waxyaabaha gudaha ku jira ma arki kartid, balse magaca iyo sidoo kale frame rate-ka iyo duration-ka ayuu kusoo qaban doonaa. icon view waxaa waaye waxyaabaha gudaha ku jira xitaa waad arki kartaa. hadda kan inuu muuqaal yahay haddii aan qaybtan scrollingka mouse-ka aan dul saaro oo kale duration-kiisa ama socodkiisa gudihiisa waad arki kartaa. sidoo kale list view-gana qaabkan ayaad u arkaysaa. waxyaabaha folder hadduu yahay magaca folderka, hadduu muuqaal uu yahay, hadduu muuqaal iyo cod isla socdaana sidaan ayuu kusoo saari doonaa. qaybta iconka muuqaalka iyo cod haddii iswataana sidaan oo kale ayuu kusoo saari doonaa. marka icon view iyo list view-na sidaan ayaa loo isticmaalaa. sidoo kale haddii aad u baahan tahay arrangement inaad samaysid sidoo kale kan ayaad isticmaalaysaa. xorriyadda aad leedahay waa isdul saari karta haddii aad u baahan tahay. midkan aad ujeedin freeform view waay. marka waxaynu isticmaali doonaa intaynu course ku guda jirno oo kale icon view ama list view. siiba icon view aynu isticmaali doonaa insha Allah. sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa marka adjustment size aynu ku haysanaa. adjustment size-kan waxaa waaye waxyaabaha project panelkaada ku jiro haddii aad u baahan tahay inaad si waadax aad u aragtid oo kale sidaan oo kale aad usoo weyneyn kartaa. xogaa daaqadan dhan aan soo yara weyneeyo. marka qaybtan adjustment-gana sidaan ayaad u isticmaali kartaa. qaybta waxyaabaha gudaha ku jiro project panelka ayaad kasoo weyneyn kartaa marna
waad ku yareyn kartaa. Sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa oo ka mid ah project panelka waxaynu ku haysanaa iconiska waxyaabaha meeshan ku jiro oo kale arrangement ayaad samayn kartaa. List view-gi oo kale hadda meeshan waynu ku haysanaa. Sidoo kale haddii aad u baahan tahay waxyaabaha meeshan ku jiro alphabetical order by name ahaan isoo kale hormari waad dhihi kartaa adigoo isticmaalaya nameka oo kale. Haddii aad u baahan tahay media type-ka meeshan waxaa waaye arrangement badan ayaad ka samayn kartaa almost waxyaabaha meeshan ku jiro oo kale. Tusaale ahaan haddii aad u baahan tahay alphabetical order sidoo kale list view-gi hadda intaynu kusoo sheegnay oo kale intan waynu ku haysanaa asigana waxyaabo badan ayaad ka samayn kartaa meeshaana. waxaan rajaynayaa saaxiibayaal dhammaantiin casharkeena toddobaad inaad si fiican aad u wada fahanteen. waxaynu ku sharxaynay daaqadan project panelka. ugu horreyn waxaynu soo sharaxnay waxyaabaha projectiga uu ka kooban yahay, qaabka import loo soo sameynayo anagoo isticmaalayna weeyo badan. sidoo kale waxyaabo kale oo ka kooban ama la rabo qofka inuu ka fahmo project panelkan sida icon view, list view iyo sida bin loo sameynayo ayaan casharkeena ku sharaxnay. insha Allah casharkeena sideedaad ee barashada video editing-ka dhanka Adobe Premiere Pro CC 2020 waxaynu ku baran doonaa qaabka loo isticmaalo daaqadan lagu magacaabo source panelka. source panelka wuxuu la shaqeeyaa daaqadan hoose timeline-ka ayuu la shaqeeyaa. timeline-kan waa meesha lagu jarjaro muuqaalka waaye. sidoo kale daaqadan waxaad ku samayn kartaa intaadan keenin source-ga muuqaalka qaybtan timeline-ka waxaad samayn kartaa ood kusoo jarjaran kartaa daaqadan source-ga. marka si aynu u fahanno af Soomaaliga yaanan ku badan si aad marka muuqaaladaada iyo waxyaabaha aad rabtid si aad ugu soo muujisid daaqadan source-ga muuqaalkaada waxaad samaynaysaa double click ayaad siinaysaa. wax kale ma samaynaysid, double click ayaad siinaysaa. double click markaad siisa ama sidoo kale drag and drop waa soo samayn kartaa muuqaalka adigoo left click waa soo jiidi kartaa daaqada waa dul keeni kartaa. marka daaqadan markaad double click muuqaalkaada aad siisay qaybtan project panelka muuqaalada ku yaalaan intay kaga soo muuqan doonaan. intaadan keenin qaybtan timeline-ka ayaana qaybtan waxaad ku samayn kartaa muuqaalkaada waad ku jarjaran kartaa sidoo kale daaqada. marka meeshan waxaynu ku haysanaa marka tools aynu ku haysanaa. toolskan aynu ku baran doonaa casharkan iyo qaabka loo isticmaalayo. ugu horeyn qaybtan ugu horeeya toolkan ugu horeeya waxaa lagu magacaabaa marker ayaa lagu magacaabaa. markerkan waxaad u isticmaali kartaa muuqaalka ku saaran qaybtan source panelka ayaad waxaad u isticmaali kartaa tilmaan ahaan af Soomaali. tusaale ahaan markerka hadda markaan ku dhufto play hit-ka markaan soo wado oo kale wuxuu ii sameynayaa calaamad ayuu ii sameynayaa. marka markerkan wuxuu aad u qurux badan yahay dadka teamka oo kale oo project ka wada shaqeynayo ay waxay sameyn karaan muuqaaladooda markers u sameyn karaan. marka adigana waad u isticmaali kartaa. marka markerskan tilmaan ahaan ayaad u isticmaali kartaa. tusaale ahaan qaybahan oo kale hadda markerkan midkan intuu ka bilaabana ilaa iyo inta waxaad sameyn kartaa intaan inaad u samaysatid node iyo magac inaad u samaysatid aad ku aqoonsan kartid markerkaaga. si marka information badan aynu ogaano markerka aad samaysay waxaad ku samaynaysaa double click ayaad siinaysaa markerka dushiisa waxaad samaynaysaa double click ayaad markerka siinaysaa. double click markerka markaad siisid daaqadan ayaa kusoo furmi doonta ay ku qoran tahay marker. sidoo kale magac ayaad u samayn kartaa tilmaamahaada aad double click aad siisay. meeshan wuxuu kugu tusinayaa marka duration-ka aad markerka uu saaran yahay. marka sidoo kale comment ayaad ka bixin kartaa markerkaaga si aad ku aqoonsatid. sidoo kale markerkaada colorkiis inta aad ka bedeli kartaa. waad u jeedinayaan filay magac uma soo sameynin, comment kama bixin, markerka colorkiis ayaan bedelay. marka guud ahaan markerska waxaa loo isticmaalaa tilmaan ahaan ayaad u isticmaali kartaa. wuxuuna aad u qurux badan yahay dadka projectyada waaweyn ka shaqeynaya as a team ahaan muuqaal u soo saaraya ayaa aad u isticmaala. marka sidoo kale markerskaada waxaad samayn kartaa waad wadi kartaa muuqaalkaaga ku saaran qaybtan source panelka meeshaad u baahantahay aad geyn kartaa. sidoo kale waad iska delete gareyn kartaa adigoo siinaya double click markerka. double click markaad siisay markerkaad u baahantahay inaad deletid markuu kusoo furmo markerka qaybtan waxaad ka dooranaysaa delete ayaad ka dooranaysaa. waad u jeedinayaan filay mid walbana waad delete gareyn kartaa. marka markerska qaabkan ayaa loo isticmaala. waxaan rajaynayaa dhammaantiin aad wada fahanteen. sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa mark in iyo sidoo kale waxaynu ku haysanaa mark out. maxaa loo isticmaalaa labadan tool? waxaa loo isticmaalaa labadan tool waxaad u isticmaali kartaa tusaalahaan muuqaalkan inta ku saaran oo source panelka duu muuqaalkaaga uu dheer yahay waxyaabo qayb ka mid ah inaad kasoo jaritid haddaad u baahan tahay waxaad isticmaalaysaa mark in. tusaalahaan muuqaalka inta iga bilaaban leeyahay intaana rabaa inaan isticmaalo. sidoo kale waxaan leeyahay mark out ayaan leeyahay. marka Premiere Pro wuxuu ku sameynayaa qaybtan source panelka intaan ayuu highlight ku saarayaa.
haddii aad u baahantahay marka intaan drag and drop ayaa samayn kartaa, waad isticmaali kartaa intaan. Waad ujeedinayaan fila hadda intaan ayaan soo goostay. Sidoo kale waxaad samayn kartaa markerkaada waad soo jiidi kartaa, meel kalena waad geyn kartaa haddii aad u baahantahay. Haddana intaan ayaan waxaynu ku samayn karnaa, waanu soo jiidi karnaa oo waxaynu keeni karnaa qaybta timeline-ka ayaynu keeni karnaa. Sidoo kale meeshaad highlight garaysay markerskaada waxaad samayn kartaa geesahan oo kale haddii aad u baahantahay waad ka badsan kartaa intaad mark in mark out aad ku samaysay oo aad calaamadeysatay, kadibna drag and drop ayaad samayn kartaa. Marka guud ahaan markerska sidaan ayaa loo isticmaalaa oo muuqaalkaaga qayb ka mid ayaad kusoo jaran kartaa. Waxaad keeni kartaa qaybtan timeline-ka aad ku jarjaraysid muuqaalkaada ayaad keeni kartaa. sidoo kale toolkan kale oo kusoo xig waxaa lagu magacaabaa go to in. waxay isla shaqeeyaan toolkan kale oo inta soo jira, asigana waxaa lagu magacaabaa go to out. marka toolishan mid walba wuxuu leeyahay shortcut ayuu leeyahay. tusaalehaan mark in-kan oo kale i ayaad u isticmaali kartaa, mark out-na o ayaad u isticmaali kartaa. marka mid walba markaad dul saartid waxaa kusoo bixi doona magaciisa iyo shortcut-ka loo isticmaalayo kusoo bixi doono. marka shortcut-yada inaad xifdisid adiga ay ku wanaagsan tahay. marka tooliskan go to in, go to out simply waxaad u isticmaali kartaa. hadda playhead-kan inta ayuu joogaa. haddii aan u baahannahay qaybtan inaynu keenno oo uu ka bilaabanayo mark in-keena, waxaan leeyahay go to in ayaan leeyahay, inta ayuu imaanaya. haddii aan u baahanahay meeshuu ku dhammaanayo inaan tagana, go to out ayaan leeyahay. marka labadan toolna ayagana waxaad u isticmaali kartaa. muuqaalkaaga bilowgiisa ayaad tagi kartaa iyo sidoo kale muuqaalkaaga dhammaadkiisa ayaad tagi kartaa. labadan tool sidaan ayaa loo isticmaalaa. sidoo kale toolkan kale oo noogu soo xiga asigana waxaa lagu magacaabaa step back one frame ayaa lagu magacaabaa, oo leftiga ama bidixda hal frame ayaad waxaad u socon kartaa dhankuu kasoo bilaabanayo muuqaalkaaga. sidoo kale waxay isla shaqeynayaan midkan kale, asigana waxaa lagu magacaabaa step forward one frame ayaa lagu magacaabaa, oo rightiga ama midigta ah. hal frame ayaad waxaad u socon kartaa dhanka muuqaalkaaga uu ku dhammaanayo, hal frame adigoo sidaan u soconaya. toolkan kale asigana waxaad u isticmaali kartaa muuqaalkaaga inaad ku daawatid, sidoo kale inaad ku boosgaraysid ama aad ku istaajisid ayaad u isticmaali kartaa. sidoo kale toolkan kale oo noogu soo xiga asigana waxaad u isticmaali kartaa oo insertiga ay ku qoran tahay. marka labadan tool si aan u fahanno muuqaal ayaan waxaan ku sameynayaa drag and drop ayaan ku sameynayaa qaybta timeline-ka. sidoo kale muuqaalka waxaan sameynayaa waan iska yareynayaa, intaan ayaan iska delete gareynaya si aad u fahantiin toolkan. marka waxyaabahan timeline-ka ku saabsan oo idil ama sida wax loo edit gareeyo seasonka labaad ayaynu baran doonaa. hadda interface-kan aynu wada baranaynaa insha Allah, si guud ahaan markuu dhammaado koorsiga ardaygu u fahmo application-ka guud ahaan sida uu shaqeeyo waxna uu ku edit gareyn karo. marka sequence ay u baahan yahay hadda timeline-ka. marka drag and drop ayaan iska soo sameeyey. marka si aan u fahanno marka tooliskan insert ay ku qoran tahay, insert wuxuu ku sameynayaa meeshuu ku yaalo indicator-kaaga ama uu ku taagan indicator-kaaga oo timeline-ka uu ka taagan yahay ayuu muuqaalku ku dhex gelinaya, wuu kala jarayaa. hadda markaynu fiirino aan ku dhufto insert, click aan ku siiyo, waad ujeedinayaan filaya muuqaalkii wuxuu sameeyey uu kala jarmay muuqaalkii asigoo dhanba. marka waad ujeedinayaan filayaa qaybtan insert wuxuu ku sameynayaa clipkaaga control z aan soo dhaho hal mar. clipka hadda inta noo yaalo oo kale ayuu wuxuu u sameynayaa meeshuu uu noo yaalo indicator-kan tilmaamahan ayuu kalbarkuu ka dhex gelinaya, meeshuu ka jarayaa. markaan ku dhufto oo kale insert, waad ujeedinayaan filaya muuqaalkii laba dhan ayuu noqday, kanna gudaha ayuu soo geliyey. sidoo kale midkan kalena waxaad u isticmaali kartaa override ayaa lagu magacaabaa. shortcut-yada loo isticmaalayo meeshay ku qoran yihiin kan comma waaye, kan waxaa waaye full stop waaye. sidoo kale toolkan kale asigana xoogaa way isku yara dhow yihiin, override-ka lagu magacaabo. asigana wuxuu sameynayaa muuqaalkaaga dhanka midigta ayuu dhigayaa muuqaalkaaga, waad ujeedinayaan filayaa. midkan waa midkii hore, kan inta yaalo, kan waxaa waaye midka hadda aynu soo dhignay waaye. aan kusoo celiyay hal mar. hadda muuqaalkan inta noo yaalo timeline-ka, kan wuxuu sameynayaa override-ka dhankan ayuu soo marsiinayaa. kii hore wuu kala jaraya muuqaalka, kan insert ay ku qoran tahay wuu kala jaraya. midkan kalena wuxuu sameynaya marka dhankan ayuu soo marsiinaya. markaan click aan ku siiyo override-ka dhankan ayuu soo marsiinayaa. sidoo kale toolkan kale oo kusoo xig waxaad sameyn kartaa muuqaalka kuu saaran qaybtan source panel-ka ayaad screenshot ka qaadi kartaa meeshaad u baahan tahay. tusaale ahaan inta oo kale hadda anigoo maraya waxaan sameynayaa screenshot ayaan ka qaadaya. click markaan ku siiyo toolkan wuxuu sameynayaa magac ayuu u bixinayaa. sidoo kale formatka tusaale ahaan jpeg ayaad ka dhigan kartaa, png haddii aad u baahan tahay. kadib waad save garaysan kartaa. marka waxaad u isticmaalaysaa asigana kanna toolkan screenshot ahaan ayaad u isticmaalaysaa.
sidoo kale waxyaabaha ka mid ah source panelkan qaybtan waxaynu ku haysanaa drag video only iyo sidoo kale drag audio only. maxay kala yihiin marka labadan? tusaale ahaan muuqaalkaaga waxaad samayn kartaa intaad select garaysay mark in mark out ka aad samaysay muuqaalka keligiis haddii cod uu wato muuqaalka keligiis ayaad waxaad samayn kartaa waad soo qaadan kartaa. haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga cod inuu wato codka keligiis haddii aad drag aad soo samaysay codka keligiis ayaad soo qaadan kartaa. marka muuqaalka hadda cod ma wato. haddii aad u baahan tahay muuqaalka codka labadaba inaad soo qaadid oo kale qaybtan centerka ayaad ka soo qaadaysaa. labadooda wuxuu sameynayaa Premiere Pro uu ku soo qaadaya marka muuqaalka iyo codka buu ku soo qaadaya qaybtan centerka. meeshaan markaad fiirisin ay ku qoran tahay quarterka 1/2 oo kale waxa waaye muuqaalka inta ku saaran source panelka computerkaaga qualitygiisa haddii ay waxyaaba performancegiisa uu iska hooseeyo daawashada aad ku daawanaysid oo kale haddii computer aad u sare oo aad haysid oo kale full ka dhigo si wax walba meeshaan muuqaalka aad daawanaysid kaliya ay ku noqdaan. marka kanna sidaas loo isticmaalaa full ayaad ku daawan kartaa ama quarter ayaad ku daawan kartaa half ayaad ku daawan kartaa. meeshaan waxaynu ku haysanaa marka ay ku qoran tahay toolkan fit waxa waaye waad soo dhaweyn kartaa muuqaalka meeshaan ku saaran sourciga 100% haddii aan ka dhigo oo kale zoom sidaan uu usoo dhawaanayaa. marka meeshaan percentage ay ku saaran fit haddii aad u baahan tahay muuqaalka gebigiisa aad wada arkaysaa. marka waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad wada fahanteen guud ahaan toolska uu leeyahay source panelka oo defaultiga ah. meeshaan waxa waaye durationka muuqaalka ayuu kugu tusayaa. insha Allah cashirkeeni 9aad ee barashada video editingka dhanka Adobe Premiere Pro CC 2020 waxaynu ku baran doonaa insha Allah maanta qaabka wax loo edit gareynayo. marka koorsiga xalqadii koowaad ama sectionkii koowaad wuxuu ka koobnaa almost 10 muuqaal ayuu ka koobnaa. marka 10kii muuqaal sidaan ay ku dhamaanayaan xalqadii koowaad ee koorsiga. marka koorsiga xalqada koowaad ardayga markuu dhameeyo waxaynu u baahanahay inuu muuqaal uu ku sameyn karo Adobe Premiere Pro. casharadii hore waxaynu ku soo baranay guud ahaan applicationka qaabka loo isticmaalayo wax walba toolskiisa oo idil ayaynu kusoo sharxnay. marka toolskaasna waqti ay naga qaateen sababta ardayga toolska bari ka maalin waxyaaba uu ku shaqeynaya ay ka mid tahay. marka haddii aynu video leh uun iska soo gelino edit gareyno bari ka maalinna tool walba qaabka loo isticmaalayo haddii aadan aqoon dhibaato waayo. marka toolska application walbana farsamooyinka ugu horeyn laga barto oo waxaa kow ka ah programka qaabka uu shaqeeyo programka toolskiisa oo idil qaabka loo isticmaalayo bari ka maalin muuqaal haddii lagu sameynayo programkaas video qaabka rabtid ayaad ugu sameyn kartaa sababta tool kasta qaabka loo isticmaalayo ayaad taqaanaa. marka waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad horta wada fahmaysiin toolisha soo sharxnay faa'iido ay leeyihiin. waxaan rajaynayaa arday walbana intaynu soo sharaxnay inuu kor ka xasuusto. casharkeena ama xalqadeena koowaad waxaynu kusoo gabagabeyn doonaa insha Allah qaabka wax loo edit gareynayo. marka xalqada koowaad markay dhamaato waxaan rabnaa arday walba assignment aynu soo diri doonaa inuu wax soo edit gareyn doono. muuqaalkan insha Allah waxaynu ku edit gareyn doonaa marka 4 qodob ayaan ka hadli doonaa. number 2 waxaan ka hadli doonaa sequence qaabka loo sameynayo sequence wuxuu yahay ayaan sharxi doonaa. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa edit qaabka wax aan u edit gareyn karno qaabka muuqaal cod aan u saari karno ama music aan u saari karno. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa insha Allah titleska qaabka muuqaalka cinwaan loogu sameynayo ama logo ha noqdo ama title ha noqdo qaabka loogu sameynayo inuu ku sharxi doonaa insha Allah muuqaalkeena. sidoo kale waxaanu ka hadli doonaa color correctionka muuqaalka qaabka colorkaaga loogu bedelayo color correction qaabka loo sameynayo ka hadli doonaa. sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa inuu kusoo gabagabeyn doono barnaamijkeena waxyaabaha aad samaysatay qaabka export loogu sameynayo dibadda qaabka loogu soo saarayo. marka 5taas qodob ayaan ka hadli doonaa insha Allah. waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad ila wada socon doontiin. ugu horeyn waxaynu kasoo bilaabi doonaa project cusub ayaan samaysan doonaa maanta. qaybtan waxaan ku dhufanayaa new project ayaan ku dhufanayaa. projectigeena title ayaan ugu sameyn doonaa. waxaan leeyahay marka section 1 final project ayaan leeyahay. marka qaybtan locationka waa meeshuu kugu keedinayo waa marka projectigaaga almost marka section 1 final projectigaan ayaan soo dooranayaa. marka sidoo kale qaybtan hoose waxaan ku dhufanayaa okay ayaan leeyahay. ugu horeyn marka waxaynu sameyn doonaa sequence ayaynu sameyn doonaa. sequence horta intaynu sameyn sequence muxuu yahay? sequencegu waxa waaye projectigaaga Premiere Pro-ga wuxuu ku weydiinayaa intaadan sameynin cabirkaad u baahan tahay in lagu sameeyo. tusaale muuqaalka sameynaysa haddii ay YouTube ku wadid oo kale
cabirkiisa inaad iska saxdid. Sequence waa intaas. haddii aad Instagram aad u wadid oo aad u sameynaysid sidoo kale inaad shay portrait aad ka dhigtid, shay taagan aad ka dhigtid. haddii Facebook aad u wadid marka meelaha wax lagu publish gareynayo muuqaalada size-kooda way kala duwan yihiin. marka kuwa ugu caansan oo aspect ratio-ga 16:9 sida muuqaalada YouTube-ka aad ka daawatin oo kale cabirkaas aynu sameyn doonaa. Talaabada ugu horeysa aynu ku sameyn karno sequence waxaad imaanaysaa qaybtan file-ka, sidoo kale new aad ka dooranaysaa. meeshan waxaynu ku haysanaa sequence aynu ku haysanaa, ama sidoo kale adigoo isticmaalaya shortcut-ka Ctrl+N. haddii aynu taabano oo kale hadda Ctrl+N waa isku mid, waxaa kusoo furmi doono qaybtan ay ku qoran tahay new sequence. marka sidoo kale qaybtan waxaynu isticmaali doonaa ay ku qoran tahay folderkan digital SLR kaynu isticmaali doonaa. qaybtan digital SLR-ka flartan soo fur. sidoo kale marka muuqaalkaaga inta ka dooro cabirkaad u baahan tahay. anagaad waxaynu u baahanahay HD inaynu ka dhigno 1080 pixel oo frame rate-ka marka 24 ama 25 midkaad u baahan tahay dooran kartaa. almost marka frame rate-ka 30 ayaan ka dhiganayaa. marka qaabab badan loo sameynayo way jirtaa oo custom uu yahay. qaybtan setting oo kale hadda frame size intaynu ku haysanaa horizontal-ka iyo sidoo kale vertical-ka ba. marka almost hadda waxaynu isticmaali doonaa preset-kan intaan ku diyaarsan. waxaad doorataa marka digital SLR-kan soo fur. sidoo kale folderka waxaad furtaa ay ku qoran tahay 1080 pixel-ka. haddii aad u baahan tahay 480 pixel ama 720 pixel waad isticmaali kartaa. marka anaga HD aynu hadda u baahannahay waxaynu isticmaali doonaa 1080 pixel-ka. sidoo kale waxaad u bixin kartaa sequence-gaaga magaca ayaad u bixin kartaa. adigoo hadda inta joogo waad u bixin kartaa, sidoo kale gudahan waad ugu bixin kartaa. marka hadda aynu u bixinaynaa waxaan ku qorayaa, kadib qaybtan hoose waxaan ku dhufanayaa okay aan leeyahay. okay markaynu dhahno hadda waad ujeedin ayaan filayaa sidaan aynu ku samaysanay oo shaashada madow ee noo soo muuqatay cabirkii aynu sameyn rabno projectigeena. sidoo kale qaybta markaad fiirisiin timeline-ka qaybta waxaa ku qoran final video project 1 waa cinwaanka hadda aynu soo bixinay sequence-geena. qaybtan madowga aad ujeedin waxaa waaye sequence waaye. marka almost marka muuqaaladeena aynu kusoo upload gareynaynaa ama import aynu ku sameynaynaa. muuqaaladaas soo diyaarsan marka aniga inta laba muuqaal ay ugu diyaarsan, labada muuqaal ayaan highlight saaraya. kadib drag and drop weyd wax loo soo gelinayo BrainPro waynu soo sharaxnay. way ka mid ah ayaan wax u soo gelinayaa. almost marka waxaan rajeynaa dhammaantiin aad wada fahamsantihiin qaabka wax loo soo gelinayo BrainPro-ga. marka ugu horeyn sidaan ayaan ugu baxnay qodobkii koowaad oo ahaa qaabka loo sameynayo sequence iyo sequence wuxuu yahay. marka sequence-ga hadda markaynu sameyno marka muuqaaladeena marka inta waynu kusoo jarjaran karnaa qaabka source-gan loo isticmaalayo. meeshan waxaynu kusoo sheegnay source panel-ka anagoo isticmaalayno source panel-kan qaabka wax loo soo jarjaraayo horey aynu ugu soo hadlay. marka almost hadda waxaan sameynayaa marka intaan wax ku jarjaraynaa. marka hadda muuqaalkeena project panel-kan ayuu yaalaa. si aan inta u keeno adigoo left click haya muuqaalka waad soo jiidaysaa inta aad keenaysaa. hadda muuqaalkan aynu soo jiidaynaa inta aan keenayaa. baqshadan oo kale markay ku soo baxdo waxay ka dhigan tahay muuqaalka aynu soo jiidnay iyo sidoo kale cabirka aynu sameynay sequence-gu way kala duwan yihiin. haddii aad u baahan tahay cabirkaada hore inaad ku socotid keep existing setting ayaad ku dhufanaysaa. sidoo kale haddii aad u baahan tahay muuqaalkaa soo jiiday inaad projectigaaga settingkiisa aad ka dhigtidna qaybtan ayaad ka dooranaysaa. marka ani almost hadda keygii hore ayaan u baahanahay kan ayaan ku dhufanayaa. marka almost hadda laba muuqaal ayaan waxaan kusoo sameeyay qaybtan timeline-ka drag and drop. muuqaalkan ugu dambeeya oo kale waynu iska delete gareynaynaa. waan dooranayaa adigoo joogtid qaybtan selection-ka, kadib delete ayaad waxaad ka taabanaysaa keyboard-kaada ka taabanaysaa. sidoo kale waxaynu u gudbi doonaa insha Allah qodobkeena labaad oo ahaa qaabka wax loo edit gareynayo. almost marka si aynu wax u edit gareyno ugu horeyn marka qaybtan markaad fiirisiin oo calaamada gaduuda ay saaran tahay gaduudkan almost marka BrainPro wuxuu ku siinayaa ilaa 3 kalar ayuu ku siinayaa. waan ka hadli doonaa calaamadan danger-ka gaduudka meeshan saaran. calaamadooyinkan meeshan saaran qaybtan sare haddii aad ku aragtiin 3 kalar ay u kala baxaan. waxaa waaye cagaar, jaallo iyo gaduud. gaduudka markuu sidaan u saaran yahay muuqaalkaaga dushiisa qaybtan sare oo kale waxay ka dhigan tahay computer-kaaga aad isticmaalaysid hadduu performance-giisa ama computer hoose hadduu yahay oo kale waxyaabo noocan sidaan gaduudkan inta saaran ayaa ku soo bixi doona. marka waxay ka dhigan tahay marka muuqaalkaaga aad daawanaysid sidoo kale inuu kaaga go'ayo muuqaalka culeys aad ka dareemaysa qaybtan program monitor-ka.
marka waxaynu u baahanahay marka inaan render ku sameyno anagoo inta joogno qaabkee marka render aan u sameyn karnaa oo colorkan qaybtan saaran oo culeyskan aynu iskaga baabi'in karnaa waxaa sameynaysaa marka muuqaalkaaga meeshuu ka bilaabanayo ayaad calaamadda indicator ka geynaysaa calaamaddan waxaynu kusoo sheegnay indicator waa tilmaame meeshaad joogtid ay ku tilmaamaysaa almost marka meeshaad muuqaalku uu ka bilaabanayo ayaad geynaysaa keyboardkaada waxaad taabanaysaa marka I ayaad taabanaysaa intana waynu kusoo sharaxnay oo muuqaal markaynu soo jarjarayna mark inka I inaynu isticmaalayno kadib meeshuu gaduudkaada uu ku dhammaanayo aad imaanaysaa O ayaad taabanaysaa intaan ayaad soo xiraysaa marka si aan render aan ugu sameyno selectionkan hadda aynu sameynay laba qaab waad samayn kartaa qaybtan waxaad imaanaysaa sequencega kadib waxaad ka dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay render effect in and out ama sidoo kale shortcutka keyboardka adigoo isticmaalaya enter haddii aan hadda anigoo inta joogno enter aynu ku dhufano programka Premiere Pro wuxuu sameynayaa render ayuu sameynaya marka colorka meesha saaran ayuu naga baabi'inayaa oo si previewga hadhow muuqaalkeenu daawaneynona si waadax ayuu noo noqonayaa marka adigoo isticmaalaya qaybtan sequencega renderka waad ka sameyn kartaa ama sidoo kale enter ayaad ku dhufanaysaa marka renderka markuu noo dhameeyo ayaanu arkaynaa insha Allah qaabka muuqaalka fasix ayuu noqon doonaa daawashadiisa oo kale marka waad ujeedinayaan filay hadda colorkii wuxuu isu bedelay hadday danjarka gaduudka ahaa colorkan ayuu noqday cagaarkan ayuu noqday marka jaalan uu jiraa jaalli cagaar way fiican yihiin muuqaalka markaad daawanaysid sidoo kale si waadax ayaad u arkaysaa marka hadduu gaduud uu ka yahay renderkaas ku samee marka waxyaabahan waxaad arkaysaa marka colorskan gaduudka cagaarka iyo jaalahan gaduud haddaa aragtid oo kale performance computerkaaga ayaa aad iskaga hooseeya marka selectionkan hadda meeshan saaran oo kale qaabkee iskaga baabi'in karnaa sidii hore aan kusoo ceshanaynaa qaybtan sare aad imaanaysaa right click ayaa leedahay meel banaan noocan oo kale aad imaanaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa clear in and out ayaad ka dooranaysaa waad ujeedinayaan filay hadda sidaan aynu ku baabi'inay marka waxaynu u gudbi doonaa marka qaybta editingka horta intaynu u gudgalin waa inaynu ka hadalnaa qaybtan xoogaa aynu sharaxnaa v1 a1 a2 a3 v1 v2 v3 ujeedin maxay kala yihiin marka videoga hadda meeshuu saaran yahay track uu saaran yahay waxaa lagu magacaabaa video 1 maadaama kan video uu yahay wuxuu saaran yahay tracka video 1 ayuu saaran yahay codad wixii ka bilaabanayna waxay imaanayaan audio 1 audio 2 audio 3 marka a1 hadda aragtid waxaa waaye audio 1 audio 2 audio 3 waaye v1 hadda aragtid waxaa waaye video 1 haddii v2 aragtidna video 2 almost marka sidaan ay u kala baxaan hadda tracka meesha saaran wuxuu ku aadan yahay v1 ayuu ku aadan yahay maadaama kan muuqaal uu yahay qaybtan hoose ma keeni karno laakiin kor weyn u wadi karnaa oo waa muuqaal laakiin hoos ma geyn karno hoos waxyaabaha videoska aad geyn kartaa waxyaabaha aan dhaho codadka aad geyn kartaa maadaama audio ay kala yihiin waxaan rajaynayaa intaan inaad idila wada fahanteen horta sidoo kale marka qaybta editingka inaynu ku guda jirno waxaan u baahanahay muuqaalkeena inaynu kala jarjari karno si aad muuqaalkaad u jartid marka muuqaalkaaga aad daawanaysaa meeshaad u baahantahay inaad ka jartid ayaad imaanaysaa markaad imaatid qaybtan waxaynu ku haysanaa marka tooliskan calaamad sakiin oo kale lagu magacaabo razor tool oo shortcutka uu yahay C waxyaabaha shortcutska inaad xifdisid aad ay kugu wanaagsan tahay waxay ka caawinaysaa marka si degdegsiima inaad wax u qabatid marka razor toolkan soo dooro sakiinta oo kale meeshuu ku saaran yahay calaamadda indicatorka ayaad click ku siinaysaa meeshaad u baahantahay inaad jartid oo kale kadib markaad kala jartid razor toolkan hadda ilaa hadda ma dhaqaajin karno muuqaalkeena waxaad u soo laabanaysaa marka haddana qaybtan selection toolka oo shortcutka uu yahay v ayaad u soo laabanaysaa kadib hadda muuqaalkeena waynu kala dhaqaajin karnaa waad u jeedinayaan filayaa waynu isku dhejin karnaa muuqaalkaaga hadduusan isku dhegaynin oo kale waxaad u baahan tahay qaybtan magnetka ayaad u baahan tahay lagu magacaabo snapkan hadduu disable uu kaa yahay oo kale muuqaalkaaga ma istaagaayo waad u jeedinayaan filaya ma istaaga muuqaalka uu isdhexgalayaa marka qaybtan active ku ahaado snapka oo s uu yahay shortcutka snapkan sidan ha ku ahaado muuqaalka wuu istaagayaa marka muuqaal kale markuu imaado oo kale wuu istaagayaa waxaan rajaynayaa horta cuttingka inaad wada fahanteen qaabka wax loo jaraayo razor toolkan anagoo isticmaalayno marka sidoo kale anagoo isticmaali doono shortcutka waxaynu wax u jari karnaa qaybtan meeshaad u baahan tahay aad imaanaysaa inaad ka jartid muuqaalkaaga kadib shortcut waxaad taabanaysaa control+k markaad taabatid oo kale sidaan ay u jarmayaan muuqaalkaaga
marka waxyaabaha aad u baahan tahay oo kale delete si aad ugu samayn kartaa qaladaadkaaga waad highlight garaynaysaa adigoo taagan qaybtan selectionka waad highlight garaynaysaa kadib waxaad taabanaysaa keyboardkaaga deleteka wuxuu u dhow yahay backspace-ka ayuu ka sareeyaa marka waxaad taabanaysaa marka keyboardkaaga delete ayaad ka taabanaysaa delete markaad ka taabatid oo kale Premiere hadda intaan waan madow ma akhrin karo sababtoo ah muuqaal dhan ma saarno marka inaad isku soo dhajisid ayaad u baahan tahay marka muuqaalkaaga hadduu dheer yahay oo kale waxyaabahan drag and drop dhammaantood kuma wada samayn kartid marka waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho meeshan bannaan oo kale right click ayaa leedahay waxaad ka dooranaysaa rebel delete ayaad ka dooranaysaa rebel delete-kan wuxuu kuu sahlayaa muuqaalada gaabka ku jiraan waxyaabahan bannaankan sidaan oo kale inuu isku soo dhajiyo right click markaad aadid rebel delete ayaad ka dooranaysaa marka muuqaalkaaga adigoo isticmaalaya razor toolkan sidaan ayaad wax u jarjari kartaa meeshaad u baahan tahay sidaan ayaad u jari kartaa sidoo kale shortcut-kan waynu ka soo hadalnay anagoo isticmaalayno control plus k wax waynu u jari karnaa waxyaabahan u baahannahay inaynu iska tuurno oo kale waynu highlight garaynaynaa anagoo isticmaalayno toolkan selectionka muhiimadiisu waxay tahay waxyaabaha timeline-kan kuu saaran inaad dooran kartid sidaan oo kale inaad u dooran kartid kadib midkaad u baahan tahay waad highlight garaynaysaa keyboardka waxaad ka taabanaysaa delete ayaad ka taabanaysaa haddii meel sidaan oo kale gaabku sidaan uu ka jiro oo kale right click ayaa leedahay meesha gaabka uu ka jiro kadib waxaad ka dooranaysaa rebel delete macnaheedu waxay tahay gaabkan jira iga delete garay iga tuur waay ama sidoo kale waxaad samayn kartaa adigoona oo aadan right click iyo rebel delete aadan dooran meel bannaan waxaad samaynaysaa marka intaadan wax deleedin ayaad u isticmaali kartaa marka control z hadda aan soo dhaho waad highlight garaynaysaa shaygaad u baahan tahay inaad delete garaysid marka highlight garaysid waxaad samaynaysaa marka shift del ayaad taabanaysaa shift del waxaa waaye sida rebel delete oo kale waaye marka shift del haddii aad isticmaashid oo kale rebel delete ayaad samayn kartaa marka waxaan rajaynayaa inaad wada fahanteen qaabka gaabka loo saarayo gaabka waxaad samayn kartaa meel bannaan inaad sidaan oo kale rebel delete aad ku samaysid ama sidoo kale waxaad samaynaysaa shaygaad u baahan tahay inaad deleedid ayaad soo dooranaysaa kadib shift del ayaad taabanaysaa sidaas ayuu hawada ugu baxayaa muuqaalkiina waan rajaynaa dhammaantiin aad wada fahanteen qaabka wax loo jarjarayo anigoo isticmaalayno razor toolka sidoo kale control plus k oo shortcut ah sidoo kale waxaynu wax u jarjari karnaa xoogaa qaybtan zoom aynu kusoo samayno qaybtan horizontalka sidoo kale waxaynu wax u jarjari karnaa muuqaalkaaga meeshaad u baahantay inaad ka jirtid oo kale ayaad imaanaysaa tusaalehaan inta ayaan rabaa inaan ka jiro ama bilowga oo kale ayaan rabaa inaan ka jiro bilowga markaad tigtid oo kale calaamad filaar noocan ah kusoo bixi doonto kadib muuqaalkaaga sidaan ayaad usoo jiidaysa adigoo left click isticmaalaya sidaan wax waad u jari kartaa kadib rebel delete ayaad ku samaynaysaa ama centerkan oo kale hadduu yahay kadib filaarta markay kusoo baxdo dhankaad u baahantay inaad ka jirtid ayaad aadinaysaa dhankaana u baahanahay inaan hadda aan u wado jarmiinka kadib left click ayaad dhab siinaysaa waad soo yareynaysaa sidaan wax waad u jari kartaa ayadana waa technique kale wax loo jaraayo ah muuqaalkan hadda waynu jarjarnay bal aynu isla wada daawanno waad u jejinayaan filaya muuqaalka wuu dheeraayay hadda intaan keligeed ayaan ka dhignay marka waan rajaynaa dhammaantiin aad wada fahanteen qaab saddex way ayaan soo sheegay anagoo isticmaalayn razor toolkan qaabka wax loo jarjaraayo control k qaabka wax loogu jaraayo technique-gan meeshaad u baahan tahay muuqaalkaaga inaad ka soo jirtid ayaad imaanaysaa marka dhankaad u baahan tahay inaad ka jirtid ayaad imaanaysaa kadib filaarahan dhankii aad u baahan tahay inaad u jirtid waxaad u samaynaysaa adigoo left click-gaaya waad u jiidaysaa waan rajaynaa dhammaantiin aad wada fahanteen qaabka wax loo jarjarayo anagoo isticmaalayno Premiere-ga sidoo kale waxaynu u gudbi doonaa marka qaabka muuqaalkeena loogu sameynayo wax loo yaqaano title si aan u sameyno marka waxaan u baahanahay inaynu isticmaalno toolkan type toolka ama sidoo kale shortcut-ka waxaa waaye T marka type toolkan ugu hooseeyo qaybtan tooliska ayaad dooranaysaa markaad dooratid oo kale waxaad imaanaysaa marka shaashada aad ka daawanaysa program monitorka ama preview-ga ugu yar waxaad doontidba ayaad imaanaysaa click ayaad ku siinaysaa ama sidoo kale waxaad samayn kartaa drag and drop ayaad samaynaysaa waad soo jiidaysaa intaad u baahan tahay qoraalka inuu la ekaado marka wax walba oo ku saabsan qoraalka si aynu wax ugu bedelno waxaynu u baahannahay panel lagu magacaabo essential graphic si aynu usoo furano marka qaybtan window-ga imow qaybtan waxaad jeeg soo saartaa marka essential graphic ayaad jeeg soo saaraysaa essential graphic markaad jeeg aad soo saartid dhankan ayuu kaaga soo muuqan doonaa marka qoraalka si aynu wax ugu bedelno qoraalka aynu highlight garaynaynaa qoraalka dushiisa imow adigoo joogo qaybtan T-ga
marka qoraalkaaga markaas sidaan aad u highlight garayso oo kale qaybtan editingka markaas almost waxa waaye active waaye laakiin haddii sidaan oo kale uu ka yahay disactivekan uu ka yahay qoraalka dooro number 1 qoraalka ku saaran timelineka kadib qoraalkaaga si aad wax ugu bedeshid highlight garay stepka kale qaybtan editingka marka waxyaabaha ku jiraan active ay ku noqon karaan marka qoraalkaaga marka si aad wax badan aad ugu bedeshid tusaalahan qoraalka farta oo kale ku qoran qaybtan textiga ayaad soo furaysaa kadib waxaad dooranaysaa marka computerkaaga wuxuu kuu soo saari doonaa farayaasha ama fontiga ku jira ayuu kuu soo saari doonaa fartaad u baahan tahay ayaad dooranaysaa sidoo kale qaybtan hadduu farta uu leeyahay bold italic regularka wuu kuu soo saari doonaa almost hadda ani bold ayaan ka dhigay qaybtan sidoo kale qaybtanna waxaad ka samayn kartaa qoraalkaaga waad soo weynaysan kartaa waad ujeedin ayaan filayaa sidaan oo kale ayaad usoo weynayn kartaa ama waad yarayn kartaa qaybahan waxaad ka samayn kartaa waa alignment oo centerka iyo sidoo kale leftiga rightiga ayaad samayn kartaa marka qaybtan qoraalka waxyaabo badan ayaad ka bedeli kartaa marka essential graphican muuqaalo kale ayaan si toosan ugu baran doonaa insha Allah hadduu aleedmo almost marka qaybtan fiilka ay ku qoran tahay waxaa waaye colorka hadda caddaan waaye marka fiilkan hadda markaynu soo bedelno oo kale waxaynu ka dhigi karnaa qoraalkeena colorkan u baahan nahay tusaale ahaan inta aynu kasoo doorto jaalahan oo kale waad ujeedin ayaan filaya hadda jaallo ayuu noqday marka qoraalkeena almost marka sidoo kale waxaynu u sameynaynaa background aynu u sameynaynaa qoraalkeena qaybtan hoose appearancega meeshaad fiilka aad ka bedeshay colorka qoraalka qaybtan waxaad ka dooranaysaa marka ay ku qoran tahay background sidoo kale stroke waad u samayn kartaa marka insha Allah muuqaal kale aynu uga hadli doonaa qaybtan backgroundka aad jeega saaraysaa background ee qaybta gadaal lagu samayn doonaa marka qaybtan hoose oo kale qaybta backgroundka aad ka soo weynayn kartaa sidaan oo kale markaad u soo weynaysid ama size-kaad u baahan tahay markaad ka dhigtid oo kale qaybta backgroundka rectangle-ka ama qaybta colorka dusheeda markaad soo furtid oo kale colorkaad u baahan tahay aad ka dhigi kartaa qaybta backgroundka almost hadda caddaan ayaan ka dhigayaa kadib okay aan leeyahay waad ujeedin ayaan filayaa caddaan ayaan ka dhigay marka xoogaa iskuma soo baxaya marka qaybta qoraalka iyo sidoo kale backgroundka gadaale qoraalkan waxaan sameynaya marka waan ka bedelayaa colorka anigoo dooranaya qaybtan fiilka marka ugu horeyn iska highlight garay qoraalka haddii kale waxba ma bedeli kartid fiilka ayaan soo furayaa madow ayaan ka dhigayaa marka adigoo isticmaalaya Premiere Pro qaabkan ayaad u samaysan kartaa wax lagu magacaabo titleska sidoo kale lower third ahaan waad u isticmaali kartaa lower third wuxuu yahay inuu baran doonaa haddood ujeedin ayaan filayaa colorkii sidoo kale ee qaybtan sare wuu kusoo laabtay marka computerka aan isticmaalaya ayaa iska culeys ah sidoo kale xoogaa aan soo dhaweyno sidoo kale qoraalkeena intaad u baahan tahay ilaa muuqaalka inuu ku socdo oo kale waxaad samaynaysaa waad la ekaysiin kartaa qaybtan adigoo soo jaraya haddaa jarmiinkan waynu ka soo hadalnay qaabkan wax waad ku jari kartaa haddood ujeedin ayaan filaya meeshuu ku dhammaanaya ayaan imaaday sidaan hadda haddii aan dhaho oo kale waan kusoo weyneynayaa marka filaarta dhan walba u socota ayaad la raacaysaa waad ku jari kartaa ayadana marka almost hadda titleka oo kale si aan title section 1 aynu ugu samayno waxaan samaynayaa marka qaybtan videoga ayaan xoogaa waan highlight garaynayaa qaybtan toolka waxaan taaganahay selectionka kadib xoogaa waan soo durjinaya waxaan u baahanahay title ahaan inaan u isticmaalo kadib waxaan samaynayaa kan waan soo yareynayaa filaarta dhankan ayaan imaanaya dhankan ayaan usoo jiidayaa kadib sidoo kale qaybtan hoose ayaan soo gelinayaa marka muuqaalkeena hadda sidan titlekiis wuxuu ku qaatay xoogaa qaybtan aan soo yar weyneeyo marka almost hadda markaa fiirisin qoraalkan dhankan ayuu u badan yahay marka qoraalkaaga dooro almost adigoo jooga qaybtan selectionka waxaad samayn kartaa marka dhankaad u baahan tahay aad dhigi kartaa marka centerkan baan dhigo sidaan ka dhigo almost markaynu hadda play garayno cinwaan ayuu sidaan ku qaatay muuqaalkeena ay ku qoran tahay section 1 kadib hadda markaan play aan dhaho intaa markay dhammaadaan kadib waxaa soo galaya muuqaalkeena ayaa soo galaya sidoo kale waxaad samayn kartaa hadda backgroundkiisa oo kale waa madow waxaad ka samayn kartaa background kale waad u samayn kartaa rectangle ahaan ayaad ugu samayn kartaa ama muuqaalkaaga ayaad hoos ka marsiin kartaa waad isticmaali kartaa labadan wayba hadda markaynu fiirino oo kale hadda sidaan title ayaanu ku sameynay muuqaalkeena ay ku qoran tahay section 1 marka wax walba ku saabsan qoraalkaaga toolkan aad u isticmaali doontaa type toolka kadib qoraalka markaa qoratid essential graphican soo furo essential graphic markaa soo furatid wax walba ood u baahan tahayna waad ka bedeli kartaa marka insha Allah title ka qurux badan kuwan waanu sameyn doonaa
waxaynu ku baran doonaa sectionkeena labaad dualeydmo laakiin sectionka koowaad waxaynu baranaynaa titleka caadiga qaabka loo sameynayo sidoo kale marka waxaynu qaadan doonaa qodobkeena afraad oo ah color correction marka color correction saan u sameyno waxaynu u baahannahay banner lagu magacaabo lumetri color marka lumetri colorka si aan usoo furno qaybtan windowga imo qaybtan waxaad ka doorataa marka lumetri color ayaad ka dooranaysaa sidoo kale inta ayuu kaaga soo muuqanaya lumetri colorka marka waxaad dooranaysaa marka muuqaalkaad u baahantahay inaad color correction aad ku samaysid dooranaysa aniga hadda almost muuqaalkan ayaan horey aan usoo jarjartay inta ii yaalo kadib laba qayb ayuu kala qaybsan yahay mid qayb ka mid ayaan color correction ku samayn doonaa waynu isu barbar dhigi doonaa labadooda waynu arki doonaa insha Allah marka ugu horeyn marka si aanu ugu shaqeyno qaybtan lumetri colorka muuqaalkaaga dooro haddii aad muuqaalkaaga dooran qaybtan kuma shaqeyn kartid muuqaalkeena qaybtan ayaan doortay marka bannerka sidaan ayuu kugu soo muuqan doonaa waxaad soo furtaa marka qaybtan ay ku qoran tahay basic correction ayaad soo furaysaa basic correctionka markaad soo furtid wuxuu u kala qaybsan yahay marka basic correctionka white balance iyo sidoo kale tone waxyaabaha marka Premium-Proga barnaamijyadii ugu dambeeyay aad isticmaalaysid si automatic ahaana ayaad waxaad u sameyn kartaa color correction marka qaybtan waxaad ku dhufanaysaa marka anagoo hadda waxba ka bedelin oo kale temperature-ka iyo sidoo kale exposure-ka contrast-ga waxaad ku dhufanaysaa marka muuqaalkaaga meeshan ku saaran oo kale qaybtan hoose waxaad ku dhufanaysaa auto aad ku dhufanaysaa macnaha Premium-Pro wuxuu ku sameeyaa si automatic ahaan ayuu color correction u sameeyaa qaybtan waxaad ka dooranaysaa marka auto aad ka dooranaysaa auto hadda markaynu ka doorno oo kale Premium-Pro wuxuu sameeyaa muuqaalkeena si automatic ahaan ayuu color correction ugu sameeyaa waad u jeedinayaan filan muuqaalkeena before sidaan ayuu ahaa mugdigan ayuu ahaa afterka markaanu auto ka dhignina color correctionka sidaan ayuu ku sameeyay kii horena oo kana aanan color correction aynu ku sameynay baartigan kalena color correction aynu ku sameynay waad u jeedinayaan filaya before sidaan ayuu ahaa afterna sidaan ayuu noqday marka adigoo isticmaalaya si automatic ahaana basic correctionka qaabkan aad waxaad ugu sameyn kartaa color correction muuqaalkaaga ugu sameyn kartaa muuqaaladan waxaan idinku sameyn doonaa marka waa idin soo dhigi doonaa groupka Telegramka idin soo dhigi doonaa si aad idinkana aad ugu baraatigareysiin insha Allah almost marka baartigan kale aan imaanay asigana waxaan ku sameynayaa auto ayaan leeyahay qaybtan waxaan ka dooranayaa basic correctionka marka soo furtid qaybtan hoose auto ku dhufo kadib automatic Premium-Pro wuxuu ku sameynayaa marka muuqaalkaaga ayuu wuxuu u sameynayaa si automatic ahaana color correction marka before sidaan ayuu ahaa afterna sidaan ayuu noqday marka haddii aad ku qanacsan tahay oo kale waxaad sameynaysaa waa ku deynaysaa almost marka qaybtan basic-ga color correction-kan aynu isticmaali doonaa automatic-gan waxaan rajaynaa dhammaantiin inaad wada fahanteen qaabka loo sameynayo color correction-ka anagoo isticmaalayna qaab automatic ah sidoo kale waxaan u gudbi doonaa qodobkeen ugu dambeeya aan kusoo gabagabayn doono barnaamijka oo ah qaabka muuqaalkaaga export loogu sameynayo exporting-ka Premium-Proga laba qaab waad u sameyn kartaa ama adigoo isticmaalaya programkan lagu magacaabo Adobe Media Encoder waxaan soo dhigi doonaa programkan asigana Telegramka ayaan soo dhigi doonaa wuxuu ku sahlayaa asigana project-gaaga tusaale ahaan adigoo ku shaqeynaysid Premium-Proga inaad kana muuqaal aad ku soo saaratid Premium-Pro waad isticmaali kartaa ama sidoo kale haddii aadan u baahnayn Adobe Media Encoder oo kale Premium-Proga si default inaad export aad u samaysid Premium-Pro ma isticmaali kartid oo waanu arki doonaa ma isticmaali doontid intaad muuqaalkaas exportkiis uu dhameynayo haddii laakiin Adobe Media Encoder-kan aad muuqaalada aad ku soo saaratid haddana waxaad awood u leedahay Premium-Pro inaad isticmaashid oo haddana project-kii kale aad ku samaysid isla application-kii kalena Adobe Media Encoder wuxuu ku sameynayaa project-kii ay ku soo saarayaan marka af Soomaaliga aan idinku dheerayn si aan u fahanno waxaan imaanayaa marka muuqaalkan aan u baahanahay inaan exporting aan ku sameeyo muuqaalkan aynu soo jarjarnay aynu u sameynay waxyaabo badan aynu ka soo tuurnay oo title aynu u sameynay sidoo kale color correction aynu u sameynay marka si aynu exporting aynu u sameyno waxaan imaanayaa qaybtan file-ka aan imaanayaa file-ka markaan imaado qaybtan hoose waxaad ka dooranaysaa marka meel ay ku qoran tahay export aad ka dooranaysaa ama sidoo kale shortcut ahaan waxaad sameyn kartaa Ctrl+M aad dhihi kartaa qaybtan waxaad ka dooranaysaa media sidoo kale export markaad soo furtid daaqadan media aad ka dooranaysaa ama Ctrl+M haddii aad dhahdidna isla waxaa ku soo furmi doonto daaqada marka ugu horeyn marka qaybtan format-ka waxaynu isticmaali doonaa H.264 aynu isticmaali doonaa waxyaabo kale haday ku saaran yihiin iska qaad qaybtan format-ka waxaad doorataa H.264 muuqaalkaaga MB-yaashiis aad ay u yaraan doonaan sidoo kale qodobkan kale oo xiga iska fiiri asigana ay ku qoran tahay output name-ka macnaha waxa waaye
projectigaaga markaad save garaysid oo kale meeshii lagu save garayn lahaa waaye kadib soo furo meeshaad u baahan tahay aad ku save garaysan doontaa insha Allah almost aniga hadda waxaan dooranayaa qaybtan projecti uu yaala ayaan dooranayaa section 1 finalka isla inta ayaan rabaa inuu igu save gareeyo kadib save ayaan leeyahay marka waxyaabahan kale waxba ka bedelin almost marka exporting kana waynu baran doonaa asigana asigoo sidaan ka faahfaahsan waxaynu u baahannahay section kan qof walba inuu muuqaal soo edit gareeyo color correction uu sameeyo titles uu soo sameeyo kadibna uu soo saaro marka qaabkan aad u soo saari doontaa insha Allah marka hadda qaybta markaad fiirisid oo kale estimated file size ka waa 2 MB maadaama muuqaalkayga aan soo jarjaray uu aad iskaga yar yahay waa 2 MB marka labada option ayaad u soo saari kartaa marka Premiere Pro oo kale qaybtan export ka hadii aan ku dhufto oo kale isla Premiere Pro ga ayaan ku soo saarayaa laakiin Q-gan oo kale hadii aan ku dhufto waxa waaye projecti waxaa loo gudbin doonaa programkan lagu magacaabo Adobe Media Encoder Adobe Media Encoder ayaa howsha exporting ka qaban doono sidoo kale hadii aan ku dhufto exporting waxa waaye Premiere Pro si toos ah u soo saari doono muuqaalkaaga marka aniga waxaan ku dhufanayaa qaybtan export ayaan ku dhufanayaa maadaama muuqaalkaygu uu aad iskaga yar yahay waxaan u baahanahay isla Premiere Pro ga inaan ku soo saaro marka almost sidaan ay u soo saari doonaa percentage kan intuu ka dhameynaya aad sugi doontaa marka muuqaalkeeda aynu soo sameynay waa muuqaalkan waxaan u soo sameynay title ayaan u soo sameynay waxaan ku soo qoray section 1 ayaan ku soo qoray marka adiga waxa rabtay aad ku qoran kartaa wada jeedinayaan filayaa muuqaalka intaan ayuu ahaa insha Allah casharkeeni 10aad ee barashada video editing ka dhanka Adobe Premiere Pro CC 2020 waxaynu ku baran doonaa qaabka loogu soo darayo muuqaalkaaga cod ama music ama sound effect waxyaabaha codka idil qaabka loogu soo darayo baran doonaa sidoo kale waxaynu baran doonaa qaabka muuqaalkaaga loogu sameeyo wax loo yaqaan transition waxaa loo isticmaalaa laba muuqaal markay kala go'ayaan ama kala go'san yihiin oo labada muuqaalna ay kala duwan yihiin ama aysan kala duwanaan adi meesha iskugu imaanayaan laba muuqaal hadda meesha markaa fiirisin oo kale way ka kala go'an yihiin labada muuqaal waxaa loo isticmaalaa marka meesha iskaga imaanayaan in hard cut uusan noqon oo waxyaabo effect ah u samaysid meeshaas marka transitionka af Soomaaligiisa aan ku dheeraan waynu u gudgali doonaa insha Allah asigana marka ugu horeyn waxaynu ka bilaabi doonaa qaabka loogu soo darayo muuqaalkaaga waxyaabo music oo kale marka automatically projectigan oo idil aan iska delete gareeyo kadib qaybtan waxaan soo gashanayaa muuqaalkan ayaan soo gashanayaa marka muuqaalkan ugu horeyn waxaan u baahanahay inaan cod aan u sameeyo marka meeshan waxaa igu diyaarsan music background drag and drop ayaan soo sameynayaa qaybtan waxaan keensanayaa project panelka ayaan keensanayaa sidoo kale musicda drag and drop ayaan ku sameynayaa waxaan keenayaa marka qaybtan audio 1 ay ku qoran tahay ma geyn kara marka meelahan video 1 ka video 2 ga hore ayaan u soo baranay waxyaabaha audio 1 ka waxaad geyn kartaa tracks oo idil audio aad geyn kartaa video aad saari kartaa marka almost meelahan aan ka kala jari doonaa musicda marka qaabka wax loo jaraayo waynu soo baranay muuqaalkii ka horeeyay aynu ku soo baranay marka indicator-kayga ayaan inta geynayaa kadib waxaan soo qaadanayaa marka raster 2 ka aan soo qaadanayaa weeyada wax loo jaraayo hore aan u soo baranay waa qaab ka mid ah waa kadib move tool-ka aan u soo laabanayaa waan iska delete gareynayaa marka sidoo kale waxaan sameynayaa meesha banaan ayaan right click leeyahay triple delete ayaan ku sameynayaa triple delete kana waxa waaye meelaha gaabka ayuu ka saarayaa marka musicdan hadda uma baahnayn hadii inaan dhageysto marka almost qaybtan waxaan ku dhufanayaa mute-ka ayaan ku dhufanayaa mute-ka waxa waaye empty meeshan taa waxa waaye waad iska aamusinaysaa musicda meeshan saaran marka waxaynu sameynaynaa meeshuu ku dhamaanayo muuqaalkeena waxaan sameynayaa xogaa qaybtan sidan waad u soo weyneyn kartaa adigoo isticmaalaya scrolling kan marka meeshuu ku dhamaanayo muuqaalkeena waxaan sameynayaa waan ka kala jarayaa musicda dhamaadka muuqaalkan imaanaya kadib raster 2 ka aan soo qaadanaya ama control K ayaan taaban karaa mar walba wax jartidna u soo laabo move tool-ka kadib inta jartay iska delete garee inta jartay delete ku samee
marka hadda muuqaalkan waad u jeedinayaan filayaa music sidaan ku dul saarnay waxyaabahan oo idin waxaan soo dhigi doonaa marka musicida iyo sidoo kale waxyaabaha aniga isticmaalayo dhan groupka telegramka ayaan soo dhigi doonaa insha Allah. Marka si aan transition u sameyno qodobkeena labaad wuxuu ahaa transition inaynu sameyno transition marka muuqaalkeena inaynu kala jarjarno horta raster toolka ayaan soo qaadanayaa inta ayaan ka jarayaa sidoo kale meeshaan muuqaalka dhan ayaan jarjarayaa kadib waxaan usoo laabanayaa move toolka timeline ayaan xoogaa waxaan sameynayaa waan soo weyneynayaa marka muuqaalkan hadda markaa fiirisin meeshan ugu horeyso uu ka kala jaran yahay meeshan ayaad u isticmaali kartaa marka transitionka marka transition si aynu ugu soo darso hadda markaynu play aan dhahno oo kale muuqaalka wax transition ma lahan waad u jeedinayaan filayaa wax transition ma lahan marka transitionka meeshuu ka kala jaran yahay muuqaalkaada ayaad u isticmaali kartaa marka si aan transition aan ugu sameyno hadda muuqaalkan waxaan u baahannahay effects ayaan u baahannahay waxaad ka raadaysaa marka iconkan meeshan ayaad soo furaysaa adigoo projectiga jooga project panelka balartan yar ayaad soo furaysaa effectigan ayaad dooranaysaa ama effect hadda inta ka weyso oo kale waxaad soo furtaa windowga soo fur kadib meeshan waxaad jeega saartaa effect ayaad jeega saaraysaa marka almost effectigan ayaad soo dooranaysaa kadib qaybtan waxaad raadinaysaa marka meel ay ku qoran tahay video transition marka video transitionada meeshan ku jiro waa default waynu baran doonaa muuqaalada soo aadanna insha Allah transitiono kuwan ka qurux badan qaabka loogu soo darsanayo muuqaaladaada kadib transitionadan hadda video transition markaynu soo furno wax badan oo ku jiro kadib midkaad u baahan tahay dooran kartaa almost ani hadda waxaan soo furayaa midkan zoomka ugu hooseeya oo kale kadib cross zoom ayaan inta ku haystaa waad soo jiidaysaa waxaad dul keenaysaa marka meeshuu ka kala jaran yahay muuqaalkaaga Premiere marka waxaad samayn kartaa marka hal dhinac waad ku dari kartaa sectionka labada dhinacna waad dhigi kartaa hal dhinac geeskan haddii aad u baahan tahay marba geeskaad u baahan tahay dhigi kartaa geeskan keligiisa ayaad ku dari kartaa transitionka ama geeskan keligiisa ayaad ku dari kartaa ama centerka ayaad dhigi kartaa marka aniga centerka ayaan u baahanahay kadib sidoo kale waxaan sameynaynaa muuqaalkeena ayaan play leeyahay waan soo bilaabayaa play ayaan leeyahay marka transitionkan ayaan isla wada aragno transitionka intaynu ku soo darnay marka play aan dhaho waad u jeedinayaan filaya transitionka markuu meeshaan aynu ku soo darnay muuqaalkeena wuxuu sameeyey zoom ayuu sameeyey cross zoom wax loo yaqaan ayuu sameeyey marka transitionka waa intaan waxaad u isticmaali kartaa laba muuqaal ama laba sawir meeshay iskugu imaanayaan ay ka kala jaran yihiin ayaad u isticmaali kartaa marka transitionka sidoo kale waxaad samayn kartaa haddii aad durationka aad u baahan tahay ama intuu ku socdo oo kale waad soo yareyn kartaa waxaad samaynaysaa transitionka geesihiisa ayaad imaanaysaa kadib left click ayaad dabsiinaysaa waad soo yareynaysaa ama sidoo kale waad weyneyn kartaa marka transitionka haddii aad u baahan tahay waad weyneyn kartaa haddii aad u baahan tahayna waad yareyn kartaa geesa ayaad imaanaysaa marka hadda waynu yareynay siduu kusoo galay aynu isla wada aragno waad u jeedinayaan filayaa si speed ayuu kusoo galay marka crosskan oo kale hadda waynu isticmaalnay meel kale uu ku kala jaran yahay ayaan tagaynaa muuqaalkeena sidoo kale hadda muuqaalkeena intuu ka kala jaran yahay sidoo kale waxaan soo qaadanayaa midkan kale oo slide ay ku qoran tahay bushkan ayaan soo qaadanaya marka way badan yihiin midkaad u baahan tahay aad isticmaali kartaa kadib waxaan sameynayaa marka transitionka hal gees waan dhigi karaa labada muuqaal midkaad u baahan tahay gees aad dhigi kartaa ani marka centerkan dhigayaa centerka ayaan u baahanahay marka midkan kalena aynu isla wada daawano asigana waad u jeedinayaan filaya muuqaalka wuxuu sameeyey transitionkan gees waaye waad u jeedinayaan filaya marka almost transitionada meeshan yaala sidaan ayaad u isticmaali kartaa muuqaalkaada meeshuu ka kala jaran yahay ayaad ku dari kartaa marka almost haddaadan u baahnayna waad dooranaysaa kadib delete ayaad leedahay waad u jeedinayaan filaya wuu ka baxay marka control z aan soo dhaho sidoo kale qaybtan gadaalena mid kale aynu kusoo daraynaa waxaan kusoo darayaa marka midkan kale ay ku qoran tahay bal 3D motionkan oo kale aan soo furo kadibna cubekan oo kale aan soo qaadanayaa muuqaalka meeshuu ka kala jaran yahay aan ku darayaa waad u jeedinayaan filaya kanna asigana sidaan waa
marka muuqaalka gebi ahaan aan wada daawano hadda. marka 3 transition ayaan u sameynay. marka codka mute ayaan saaray sababtoo ah ma rabo codkayga inuu iga saameeyo. haddii aan daaro oo kale hadda wax microphone iyo waxaas wax kuma duubayo automatically marka wuu i saameynayaa musicada meeshan saaran. marka idinkana waxaan soo dhigi doonaa musicdan Telegramka ayaan soo dhigi doonaa waxyaabahan oo idil si aad idinkana aad ugu soo baraatikeysiin. marka hadda muuqaalka aynu wada daawano asigoo dhan. waxaad ujeedinayaan filaya transitionkan qaabkan quruxda badan ayuu kusoo galay. sidoo kale midkan kalena sidaan ayuu kusoo galeen. kan ugu dambeyn sidaan ayuu kusoo galeen. marka transitionada ayagana sidaan ayaad u isticmaali kartaa. sidoo kale fade in ayaad isticmaali kartaa oo qaybta hore aad u isticmaali kartaa muuqaalkaaga mugdi oo kale. mugdi inuu ku bilowdo mugdi uu ku dhamaado. marka transitionada adigoo isticmaalaya Premiere Pro ku defaultiga sidaan ayaa loo isticmaalaa. marka waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad wada fahanteen. waxaynu ka hadalnay marka qaabka cod loogu soo diray codkeena. waynu soo jarjaranay intaan u baahanay aynu ka dhignay. sidoo kale transition aynu kusoo tarnay muuqaalkeena. marka muuqaalka intaanan soo gabagabeyn waxaan rabaa qof walba inuu kasoo shaqeeyo assignmentigan hadda aynu soo diri doono. assignmentigan wuxuu ku saabsan yahay guud ahaan inta hadda muuqaal aynu soo sameynay. muuqaalkii ka hore oo kale video aynu soo edit galeen. waxaynu soo sameynay muuqaal aynu soo jarjarnay. waxyaabaha qaarkood waynu iska wada tuurnay. sidoo kale waxaynu usoo sameynay title aynu usoo sameynay. sidoo kale waxaynu usoo sameynay color correction aynu usoo sameynay. maantana waxaynu sameynay transition aynu kusoo darnay muuqaalkeena cod aynu soo saarnay. marka waxyaabahaas oo idil ayaa lidinkaga baahan yahay. muuqaalana waxaan soo dhigi doonaa adna muuqaalo oo ku gooni haddii aad u baahan tahay sidaan oo kale waad soo sameyn kartaa. assignmentiga waad ugu soo shaqeyn kartaa. marka muuqaalada waxaan soo sameyn doonaa marka muuqaalo badanaan groupka Telegramka ayaan soo dhigi doonaa. marka muuqaalada waad soo jarjaraysaa. marka intaad u baahan tahay ka soo isticmaali kartaa muuqaalada. soo jarjar qaarna waxaad ku sameynaysaa marka cutting ku samee iska delete garay intaad jarjartay isku soo dhaxdar adi muuqaalada. marka isku soo dhaxdartid title usoo samee. titleka haddii aad u baahan tahay magaca xitaa ku soo qor. muhiimaddu waxaa waa inaad fahansan tahay qaabka titleka loo sameynayo defaultiga. sidoo kale waxaad soo sameynaysaa color correction usoo samee. marka color correctionka markaad soo sameynaysid sidoo kale inaan kala fahmaa raba midka color correction aad kusoo sameysay. tusaalahaan muuqaalkan ayaad tusaale ahaan kan oo kale hadda ayaan color correction ku sameynaya awtaha ayaan isticmaalaya. marka mid la mid ah asigana agtiisa ha yaalo oo colorka aanan saarneyn. midna soo saar. tusaalahaan hadda labada muuqaal waa isku mid. kan oo kale colorka soo saar kadibna midkan oo kalena asigana waxba soo saarin si aan u kala fahmo midka colorka leh oo color correction aad ku soo sameysay iyo sidoo kale midka aanan lahayn. marka sidoo kale usoo samee marka muuqaalkaas soo diyaarinaysid music usoo samee ama waxaad doontid adii codan u baahan nahay. sidoo kale waxaad usoo sameysaa muuqaalkaaga transition ayaad usoo sameynaysaa kadib exporting ayaad kusoo sameynaysaa. marka waxaan rajeynayaa assignmentigaas inaad wada fahanteen insha Allah. marka insha Allah cashirkeeni 10aad intaan ay kusoo gabagabeyn doonaa. waxaa inoo balana coursiga sectionka 2 ee inoo balana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.